بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن شاء الله تبارك وتعالى qisadii ugu horreysay oo qasasul ambiyaa oo aynu waxa weeye nidhi waxaynu soo qaadanaynaa qasasul ambiyaa ayaynu nebi usoo qaadanaynaa. marka waxaan isticmaalaynaa insha allahu tabaaraka watacaala nebi walba inaan mar ka sheekayno, aan qaybinona oo qodob qodob u qaybino. marka nabiyullaahi aadam calayhi salaam ayaa ugu horeeya saynu waxa weeye muqadimada kusoo sheegnay. awalan marka ugu horreysa waxaan keenaynaa oo aan ka bilaabaynaa qisatu aadam, maadaama uu yahay aabbihii waxa weeye basharkao dhan aabbaha u ahaa oo ka soo bilaabmay basharku maadaama uu yahay. qodobka ugu horreeya oo aan ku bilaabay qisatu aadam waxa weeye waxaan keenaynaa fii khalqi aadam calayhi salaam, waxa weeye khalqi aadam wixii ku soo arooray nabiyullaahi aadam abuurkiisii iyo habkii loo abuuray, qur-aanka wixii ku soo arooray ayaan horta keenaynaa, kabacdina axaadiistaan keenaynaa, marka saddexaadna markaas sharaxa culummada ayaan usoo gudbaynaa. qaala allahu tacaala, ilaahay waxa uu yidhi waid qaala rabbuka lilmalaa'ikati inii jaacilun fi lardi khaliifa qaaluu atajcalu fiiha man yufsidu fiiha. ilaahay waxa uu u sheegay malaa'igtii uu la hadlay nebigaa waxaa lagu yidhi u sheeg ummadaada markuu ilaahay ku yidhi malaa'igtii inii jaacilun fi lardi khaliifa, dhulkii ayaan waxaan ka yeelayaa khaliifo, ay macnaha bashar ku noolaada oo iska dhaxla oo jooga oo ilaahay ku caabuda ayaan dhulka ku abuurayaa oon dhulka ka samaynayaa ayuu yidhi ilaahay. qaaluu waxay yidhahdeen malaa'igtii baa hadasho waxay yidhahdeen oo ilaahay la hadlay atajcalu fiiha, ma dhulkii baad waxaad ka yeelaysaa man yufsidu fiiha kuwa fasahaadiya, wayasfiku dimaa'a oo dhiigga daadiya, wa naxnu nusabbixu bixamdika, annaguna adigaan kuu tasbiixsanaynaa, wa nuqadisu laka, waana ku huufaynaa oo waxa weeye waa ku nasahaynaa, xumaan oo dhan baan kuu diidaynaa oo waxa weeye aan kaa nasahaynaa. qaala wuxuu yidhi ilaahay markaa innii aclamu waxaan ogahay maa laa taclamuun waxiidan idinku ogeyn oo idan war u haynin ayaan ogahay. leanno sababtu waxa weeye waxaa ka dhalanaya oo waxa weeye duriyatu aadam ka mid a, nebiyaa ka mid a, rusul baa ka mid a, saalixiin baa ka mid a, dad wanaagsan baa ka mid a, shuhada ayaa ka mid a jihaadkii ku dhimanaya. kulli waxaasoo dhan baan ogahay oo idan idinku ogeyn wey. ilaahay markaasuu wuxuu doonay inuu malaa'igtii imtixaamo. wa callama aadama alasmaa'a kullaha, ilaahay waxa uu baray nabiyullaahi aadam asmaa'dii oo dhan, wax walba oo waxa weeye dhulka lagu isticmaalo oo waxa weeye magacyo loo yaqaan ayuu baray. hadhow bay inoo imaanaysaa sida ay u tafsiirinayaan culummadu iyo waxay ka yidhaahdeen qowluhu tacaala wacallama alasmaa'a kullaha uma caradahum cala almalaa'ika. markaasuu ilaahay wuxuu u bandhigay waxa weeye malaa'igtii oo waxa uu ku yidhi ambi'uunii ii sheega biasmaa'i haaulaa'i in kuntum saadiqiin, kuwaan magacyadooda ii sheega buu yidhi haddaad wax garanaysaan ood cilmi leedihiin oo aad wax garanaysaan. waa idinka ilaha maxaa looga baahan yahay waxa weeye inaad aadam abuurtid oo bashar abuurtide, hadda ii sheega kuwaan magacyadooda haddaad waxa weeye koo run sheegaya aad tihiin. qaaluu waxay qireen markaa waxay yidhaahdeen subxaanaka
ilaahu xumaan oo dhan baad ka nasahan tahay laa cilma lana ilaa maa callamtana cilmi melihin waxaad adiguna bartay mooye jahligoodii bay qireen iyo inayna cilmi lahayn leanna waxa weeye markii cilmigooda loo eego cilmiga ilaahay waxa weye waxay og yihiin ma jirto leanno ilaahay wuxuu og yahay cilmi qeybka oo dhan buu ogyahay waxay yidhahdeen laa cilma lana annaga cilmi melihin ilaa maa callamtana inaad adigu wixii aadna bartay oo cilmiya mooye annaga cilmi aan meesha ku hayno ma jirto wey saasaa loo baahan yaha marka qofka muslimkaa markii uu doonayo oo waxa weeye uu arko in uu waxa weeye waxaan uusan cilmi ulahayn inuu yidhaahdo allahu aclam aniga waxaan ma garanayo waa inuu ka joogsado wey innaka anta alcaziiz innaka anta alcaliimu alxakiim adiga ayaa wax walba og oo xakiim ah oo shay walba meesha ku habboon garanaya cilmina u leh qaala ilaahay waxa uu yidhi markaa yaa aadamu aadamow ambi'hum u sheeg biasmaa'ihim magacyadan u sheeg marka leanno awal baa la baray aadam oo wuu garanaya qaala markaasuu waxa uu yidhi falamaa anba'ahum markuu u sheegay biasmaa'ihim magacyadii oo dhan oo ilaahay uu baray ilaahay baa markaa hadlay wuxuu yidhi qaala alam aqul lakum miyaanan idin odhan innii aclamu gayba asamaawaati waalardi wa aclamu maa tubduuna wamaa kuntum taktumuun miyaanan idiin sheegin haddaad malaa'igtii tihiin inaan ogahay anigu waxyaalaha cilmi qeybkaa oo samada ku dhex jira oo waxa weye dhulka ku jira waxaad muujinaysaan oo qalbigiina aad waxa weye ku hadlaysaan iyo waxa aad qarinaysaan kulli waxa weeye aniga waan ogahay weeye oo waxa weye hadda ka hor baan idiin sheegay wax walbana waan garanayaa weye waid qulnaa lilmalaa'ikati isjuduu liaadama markuu ilaahay marka uu saa sameeyey oo nabiyullaahi aadam uu abuuray oo waxa weeye ay ilaahay wax baray oo ay cilmigii iyagu garan waayeen oo ilaahay uu baray nabiyullaahi aadamna uu ku jawaabay oo cilmigii uu sheegay oo ay saa u caddaatay ayuu ilaahay wuxuu yidhi marka u sujuuda nabiyullaahi aadam oo waxa weeye ilaahay wuxuu leeyahay markaa waid qulnaa lilmalaa'ikati isjuduu u sujuuda aadam liaadama fasajaduu waa sujuudeen leanna waxa weeye malaa'igtu laa yacsuuna allah ma amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun wax ilaahay ma caasiyaan wixii la amray sameeyaan wixii ilaahay uu yidhaahdo sameeya ayay horey uga degdegayaan iyagu marnaba waxa weye ilaahay ma caasiyayaan ilaa ibliisa marka way sujuudeen say u dhammaayeen malaa'igtii ilaa ibliisa ibliis mooye lacanahu allah shaydaankii ibliis ayaa diiday abaa wuu diiday wastakbara waa isla weynaaday wa kaana min alkaafiriin hadhow ayaynu wada kala caddaynaynaa sababta ku kaliftay iyo wuxuu deliishadayba ilaahay wuxuu yidhi markaa nabiyullaahi aadam buu ilaahay la hadlay oo waxa uu ku yidhi waqulnaa yaa aadamu iskun anta wa zawjuka aljanna adiga iyo xaaskaagu jannada dega wa kulaa minhaa ragadan xaytu shi'tumaa cuntadana ka cuna oo ka raaxaysta waxa weeye si raaxa ah nolol wanaagsan jannadaa iska dhex dabaasha saa doontaan ugu raaxaysta laakiin walaa taqrabaa ha u dhowaaninina haadihi shajara geedkaa ha u dhowaaninina geed baa laga nahayey geedkaana dib buu inooga imaanayaa culummadu waxa ay ka yidhaahdeen fatakunaa min adaalimiin waxaad noqonaysaan buu yidhi haddii aad geedkaa u dhowaataan oo geedkaa cuntaan dhaalimiin baad noqonaysaan oo ilaahay baad waxa weeye macaasi iyo dembi ayaad ku dhacaysaan haddaba waxa weye geedkaa ha u dhowaaninina ayaa la amray markaa oo waxaa la yidhi geedkaa iska ilaaliya fatakunaa min adaalimiin faazallahuma ashaydaanu canha faakhrajahumaa mima kaana fiih waxa weeye shaydaankii ayaa waxa weeye ku riday faazallahumaa ay awqacahumaa fi zalal wuxuu ku riday dhibaato iyo mashaakil iyo waxa weeye macsi ayuu ku tuuray faakhrajahumaa mima kaana fiih wuxuu ka saaray jannadii iyo wanaaggii iyo nicmadii ay ku jireen ayuu ka dhex saaray weeye waqulnaa ahbiduu bacdukum libacdin caduw markaasaanu nidhi ka baxa jannadii marka oo hoobta oo dhulka taga qaarkiinba qaarka kaloo cadow u yahay haddaad bilow aadmiga tihiin iyo haddaad shaydaan iyo idinkuba cadow baad isku tihiin oo hoobta oo waxa weeye dhulka taga walakum fi lardi mustaqarun wa mataacun ilaa xiin dhulka ayaad marka joogaysaan buu yidhi ilaahay oo waxa weeye jannadii haddaad ilaahay ku caasideen looguma talagelin jannada in ilaahay lagu caasiyo oo waxa weeye ma aha
meel loogu talagalay macsi iyo waxa weeye khilaaf iyo waxa weeye in la khilaafo wixii ilaahay uu amray ee waxaa loogu talagalay dad waxa weeye aan ilaahay caasiyeynin marka taga baa la yidhi oo dhulka taga dhulka ayaad joogaysaan marka waxaa nabiyullaahi aadam ku dhacay oo dhan asbaab bay ahayd iyo sabab laakiin ilaahay markii horuuba sheegay oo ballan qaaday oo yidhi innii jaacilun fi lardi khaliifa dhulka ayaan waxaan u samaynayaa dad ku noolaada oo waxa weeye ka jooga oo mas-uulka laakiin ma aha inay waxa weeye markii hore aan saa loogu talagelin wax qadar rabbi bay ahayd oo qoran laakiin asbaab baa loo yeerayey iyo waxa weeye sabab looga soo saaro jannada oo lagu keeno markaa maaragtay dhulka fatalaqaa aadamu min rabbihi kalimaatin fataaba calayh ilaahay buu u toobad keenay kelimaadkaasna waxa weeye sida inoo imaan doona waa qowluhu tacaala markii uu yidhi aadam iyo xawa rabbanaa dalamna anfusana wain lam takfir lana watarxamna lanakunana min alkhaasiriin ilaahayo waxa weeye dembi baan gallay naftayadii baan dulminay haddaadan nooga toobad aqbalin oo aadan noo dembi dhaafin oo aadan noo naxariisan waxaan noqonaynaa kuwa khasaaray oo halaagsamay ayaan ka mid noqonaynaa ayay yidhaahdeen fataaba calayh ilaahay baa maaragtay ka toobad aqbalay inahu huwa atawaabu araxiim ilaahayna waa waxa weye mid toobadda aqbala oo raxiima liman taaba wa anaab qofkii u toobad keena oo usoo noqda ilaahay waxa weeye wuu ka toobad aqbalaa waana jecel yaha ilaahay dadka usoo toobad keena oo usoo noqonaya aad buu ilaahay ugu farxaa sida axaadiis badan inoo caddaysay oo waxa weeye gadaalna aan ka sheegi doono qulna habiduu ayuu yidhi ilaahay waxaanu nidhi markaa hoobta minhaa jamiican minhaa jamiica kulligiin oo waxa weeye jannada ka baxa oo waxa weeye jannadii iyo waxa weeye samadaba inta ka soo baxdaan dhulka tagaa la yidhi marka fa imaa yaatiyanakum haddii idii yimaado minii xaggayga hudan hanuun oo nebiya laydii soo diro oo kutub laydinku soo dejiyo faman tabica hudaaya falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun qofkii hanuunkayga raaca oo dariiqa xaqaa mara oo nebiyada raaca oo rususha dariiqooda ku taagan waxa weeye qofkaasi falaa khawfun calayhim dushiisa wax cabsiya iyo welwel saaran ma jiro walaa hum yaxzanuun mana welwelayaan adduunka intay joogaanna ilaahay baa waxa weeye ay caabudayaan oo ilaahay dariiqiisii bay ku taagan yihiin oo ilaahay baa maaragtay xifdinaya aakhira hadday tagaanna janno iyo wanaag baa uga horeeya waaladiina kafaruu kuwii gaaloobay oo ilaahay ku gaaloobay wakadabuu beeniyey biaayaatina aayaadkeega oo aayaadkii ilaahay beeniyey ilaahay wuxuu yidhi ulaa'ika asxaabu nnaari hum fiihaa khaaliduun kuwaa naar baan geynayaa oo waa asxaabu naar weeye iyaga oo ku waaraya fii suurati albaqara aayadda 30 ilaa 39 ayuu ilaahay aayadahaas ku keenay weye waxaa kaloo sidoo kale ilaahay ku yidhi ina mathala ciisa cinda allahi kamathali aadam khalaqahu min turaabin uma qaala lahu kun fayakun ilaahay wuxuu nebiyullaahi aadam wuxuu caddeeyey halkaa nebiyullaahi ciisa waa qisadii dheerayd oo suurata ali cimraan ku soo aroortay oo nimankii waxa weeye nasaarada ahaa nebiga la dooday oo ku doodayey ciise waa wiilkii ilaahay ee ma aha waxa weeye bashar ma aha waa ilaah weeye ama waa wiilkii ilaahay ama waa thalithu thalaatha ayay ku doodayeen ilaahay marka wuxuu yidhi markuu ka soo sheekeeyey qisadii nabi ciise ayuu wuxuu yidhi ina mathala ciisa tusaalaha nebi ciise wuxuu la mid yahay cinda allahi ilaahay agti ka mathali aadam nabiyullaahi aadam oo kale khalaqahu min turaabin ciid baa ka abuuray nebi aadam uma qaala lahu kun fayakun haddana wuu ahaaday markaa intuu yidhi ahow ayuu ahaaday marka waxa weeye ilaahay nebi aadamna wuu abuuray bilaa aabe iyo bilaa hooyo abuuray nebi ciisena bilaa aabbaa la abuuray marka maxaad ula yaabaysaan oo nebi ciise uleedihiin waa ilaah nebi aadamba ma dhahaysaan waa ilaahe marka waxa weeye halkaa caqli xumadooda ayay kutusaysaa iyo jahligooda leannahu sababtu waxa weeye haddaad ku caabudaysaan nebi ciise aabba ma leh haddi nebi aadan aabbana ma lahayn hooyona ma lahayn hadda xaawo aabbay ma lahayn hooyo oo hooyo la-aan baa la abuuray nebi aadan feertiisa laga abuuray haddaba marka maxay ku kala duwan yihiin wey ilaahay aayad kale wuxuu ku yidhi fi suurati الnisa ya ayuha الnaasu اtaquu rabbakum aladii khalaqakum min nafsin waaxida ilaahygii ka cabsada idinka abuuray hal naf waa nabiyullaahi aadam
wa khalaqa minha ka abuuray haddana naftii zawjaha waxa weye xaaskiisii ka abuuray oo waxa weye waa xawaa baa loo jeedaa haddana markaa wa batta minhuma iyagii ka fidiyey oo ka abuuray maaragtay rijaalan kathiiran wa nisaa'a rag iyo dumar fara badan ayaa haddana ka tarmay ilaahay ka cabsada ayaa la yidhi marka wattaqu llaha aladii tasa'aluuna bihi walarxam ina allaha kaana calaykum raqiiba haddaba ilaahay ka cabsada marka waxaa layna xusuusiyey nabiyullaahi aadam keligii oo ciid laga abuuray oo waxa weye dhoobo laga abuuray in laga soo farcamay baa layna xusuusiyey oo waxaa layna leeyahay maadaama nebi aadam laydinka abuuray oo uu ciid ka yimid keligii ahaa xaaskiisii laga abuuray idinkana laydinka fidiyey war ilaahay ka cabsada marka ilaahygii saa idii abuuray ka cabsada marka wa qaala tacaala ilahay aayad kale wuxuu ku yidhi yaa ayuha annaasu inaa khalaqnaakum min dakarin wa unha wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafuu ina akramakum cinda allahi atqaakum ina allaha caliimun khabiir ilaahay aayaddan wuxuu inoogu qararay oo inoogu caddeeyey in laynaga abuuray maaragtay nebi aadam min dakarin ay nebi aadam wa unthaa xawaa wa jacalnaakum waxaa laydinka yeelay macnaha rag iyo dumar baa ilaahay idinka abuuray asalkiina xaawiye aadam baa laydinka abuuray kabacdina mar walba nin iyo waxa weeye xaaskiisii unbaa dadkii ku tarmayaan oo waxa weeye waa nin iyo naag mar walba oo isguursanaya oo dadkii saasay ku tarmayaan waa rag iyo dumar wey haddana markaasa ilahay wuxuu idinka dhigay shucuuban waxa weeye dad iyo waxa weeye dad fara badan shacbi waxaa la yidhahda marka dad meel wada degan oo kale sida matalan soomaaliya oo dhan waa shacbi wey shacbu soomaal matalan baa la oranaya wa qabaa'ila iyo qabiilooyin baa loo kala baxaa shacabkaa weyn shacabku waa waddan dhan oo qabiil kasta leh dad isku jira wa laakiin qabaa'il markii la yidhahdo waa qoys weye iyo qabiil maxay tahay sababta saa laynoogu qaybiyey ma inaan isku dilaa mise waa inaan isku cayno mise waa in la isku xumeeyo intaasoo dhan ma aha ilaahay waxa uu yidhi litacaarafuu inaad isku garataan haddaba halkaa waa qaacido weeye ilaahay inoo qararay oo macnaheedu waxa weeye war qabiilkan aad dadka ugu fahmaysad akhilmuslim wa ukhtilmuslima oo aad leedahay reer hebel baan ka dhasho anaa dadka ka fiican anaa dadka ka xoog badan looguma talagelin saas wixii loogu talagalay saas maaha ilaahay wuxuu ugu talagalay inaad qabiilkan isku garataan oo waxa weeye dadkii qaraabada kula ahaa aad garatid intii waxa weeye nasabka kula wadaagtay iyo riximka aad isku ahaydeen inaad garatid oo dadka ka garatid ayaa loogu talagalay keliya ilahay wuxuu yidhi ina akramakum yaa idinku fiican marka bilo-aamnigii yaa ugu fiican reer hebel baa ugu fiican maaha lama odhan qabiil hebel baa ugu fiican laakiin ilaahay wuxuu yidhi ina akramakum cinda allahi atqaakum waxa ilaahay agtiisa idinku wanaagsan kan idinku cabsi badan oo ilaahay ka cabsada ayaa ilaahay agtiisa ugu wanaagsan ina allaha caliimun khabiir ilaahayna wax walba waa og yahay oo waxaad samaynaysaan adduunka intaad joogtaan waxa qalbigiina ku jira waxa aad wadaan kulli ilaahay waa ogyahy waa inaad kaa ogaataan weye marka wa qaala tacaala ilahay waxa uu yidhi aayad kale huwa aladii khalaqakum min nafsin waaxida wa jacala minha zawjaha liyaskuna ilayha ilaahygii idinka abuuray hal naf oo nabiyullahi aadam baa laga wadaa haddana markaa ka abuuray naftii xaaskii oo waxa weye xaawa laga wadaa sababtu maxay loogu abuuray liyaskuna ilayha si uu ugu dego oo u weheshado oo ugu raaxaysto oo ilaahay awlaad uga siiyo oo waxa weye u weheshado ayaa loogu abuuray keligii qofku hadduu yahay waa dhibaato weeye laakiin markuu haysto xaas u weheshado oo labadii qof isweheshanayaan ilaahay baa isugu talagalay markaa waa wanaag iyo nicmo iyo barwaaqo wey ilahay aayad kale wuxuu ku yidhi walaqad khalaqnaakum uma sawarnaakum uma qulnaa lilmalaa'ikati isjuduu liaadama walaqad khalaqnaakum ay nabiyullaahi aadam ayaan abuurnay markaasaan suuraynay oo waxa weeye kabacdi markii naftii lagu afuufay oo ilaahay uu jaangooyey oo habkii uu rabay uu abuuray suuraddiisii iyo habkii u rabay ayaa markaa naftii lagu afuufay kabacdi markaa ayaa waxaa ilaahay ku yidhi uma qulnaa lilmalaa'ikati isjuduu liaadama aadam u sujuudaa la yidhi marka malaa'igtii fasajaduu malaa'igtii waa qaateen amarkii oo waa sujuudeen ilaa ibliis mooye lacanahu allah ma uuna sujuudin lam yakun min asaajidiin sababta ku kaliftay maxay tahay ilaahay baa weydiiyey oo halkan yidhi maa manacaka ya ibliis qaala wuxuu yidhi ilaahay maa manacaka anlaa tasjuda id amartuk
war maxaa kuu diiday baa la yidhi markii aan ku amray oo amarka ku siiyey oo aan ku yidhi sujuud inaad amarka qaadan weydid oo sujuudi weydid ibliisow maxaa kuugu wacan wuu jawaabay oo waxa uu yidhi markaasuu hadlo wuxuu yidhi qaala ana khayru minhu khalaqtanii min naarin wa khalaqtahu min tiin anaa ka khayr badan bu yidhi see ii amraysa ilaahay buu la doodaya waa waxaan caqli lahayn oo waxa weeye ilaahay uu la maagay halaag waxa uu leeyahay anaa ka khayr badan see aniga la ii amraysaa mid aad ka abuurtay dhoobo aniga oo aad iga abuurtay waxa weeye dab ololaya see ii leedahay u sujuud waxa weeye waxaad dhoobo ka abuurtay qaala wuxuu yidhi ilaahay markaa fahbid minha famaa yakunu laka an tatakabara fiiha fakhruj inaka min asaakiriin ka bax baa la yidhi jannada iyo waxa weeye samada ka bax baa la yidhi xaq uma aad lihid inaad waxa weeye kibir ku samayside adiga oo waxa weeye min asaakiriina ay la duleeyey oo dulliya oo waxa weeye aad iyo aad loo daciifiyey oo waxa weye naxariistii ilaahay laga dheereeyey ka bax baa la yidhi marka ilaahay buu beryo wuxuu yidhi qaala andirnii ilaa yawmi yubcathuun ilaahu ii kaadi ilaa iyo inta lasa soo saarayo naar kole haddii la igeynayo oo waxa weeye aad naxariistii iga dheeraysay oo ciqaab aan mutay oo waxa weeye aan halaagsamay bal ma uu toobad keenin oo ma oran ilaahu ii dembi dhaaf laakiin waxa uu yidhi halkaa intuu dood bilaabay ayuu wuxuu yidhi ilaahu ii kaadi inta laysa soo saarayo oo maxaad samaynaysaa ilaahay markaasu wuxuu yidhi qaala inaka min almundiriin waa loo ogolaaday marka waa loo ogolaado ilaahay baa u ogolaado ka aqbalay in loo daynayo oo waxa weeye laguu daynayo ilaa iyo inta laysa soo saarayo markaasuu dhaartay marka oo caddeeyey ulajeedaduu qarsanayey iyo wixii uu rabay oo dhan ayuu halkaa ka caddeeyey qaala wuxuu yidhi fa bimaa aghwaytanii ay macnaha fa bisababi idlaalika lii ay macnaha maadaama anigii lay dhumiyey oo waxa weye aan halaagsamay oo naar waxa weye aan mutay oo waxa weye aad naxariistii iga dheeraysay ballan waxaan ku qaadayaa la aqcudanna lahum siraadaka almustaqiim aadamkan aad iga sharaftay oo waxa weeye aad iga karaamaysay ara'ayta aladii karamta calaya ayuu aayad kale ku odhanaya dib bay inooga imaanaysaa duriyaddiisa oo dhan waan dhuminayaa buu yidhi ballan waxaan ku qaaday jidka toosan oo xaqa oo jannada dadka geynaya inaan ka dhumiyo oon halaago oo iyagoo dhan baadiyeeyo uma la aatiyannahum waxaan uga imaanayaa min bayni aydihim waxa weye horay baan uga imaanaya wa min khalfihim gadaal baan uga imaanaya wa can aymaanihim midig baan uga imaanaya wa can shamaa'ilihim bidixna waa uga imaanaya walaa tajidu aktarahum shaakiriin mana helaysid intooda badan inay kugu shukriyaan dad yar mooye inta kale waa duufsanaya waan kaxaysanayaa wey taasaana saxiix noqotay oo waxa weeye walaqad sadaqa calayhim ibliisu dannahu faatabacuuhu ilaa fariiqa min almu'miniin in yar mooye dadkii waa raaceen marka oo waa duufsaday markaasuu waxa uu yidhi halkaa markuu saa u dhaartay ayaa ilaahay wuxuu yidhi qaala akhruj minha madmuuman madxuura laman tabicaka minhum laamla'ana jahannama minkum ajmaciin ka bax baa la yidhi jannada adiga oo dulaysan oo dulliya oo aan qiimo lahayn oo naxariistii laga dheereeyey adiga iyo intii ku raacdaba ballan waxaan ku qaadayaa buu yidhi ilaahay inaan jahanabo idinku guro oo aan jahanabo idinka buuxiyo adiga iyo intii ku rumaysaba oo ku raacdaba halkaas ayaa nabiyullaahi aadam marka lala hadlay haddana oo ilaahay wuxuu yidhi wayaa aadamu uskun wayaa aadamu uskun anta wa zawjuka aljanna jannada dega ayaa la yidhi shaydaan waa laga saaray jannadii oo waa laga cayriyey markaasaa waxaa la yidhi adiga iyo xaaskaagu dega jannada aadamo oo ku raaxaysta laakiin saad doontaan ugu raaxayste walaa taqrabaa haadihi shajara war geedka ha u dhowaaninina ibliis waxa weeye sujuuddii buu diiday soo maaha adigana geedkaasaa lagaa nahiyey geedkaa aadamo iska ilaaliya adiga xaawo ha u dhowaaninina fatakuna min adaalimiin dhaalimiinta ayaad ka mid noqonaysaan haddaad geedkaa u dhowaataan wey fawaswasa lahum ashaydaanu shaydaankii ayaa waswaas geliyey alwaswaasku marka waxa weeye waa inuu waxa weeye waa tasyiin wey waa tasyiin weye inuu qofkii u qurxiyo oo waxa weeye uu ku rido markaa macaasidii ayaa la yidhahdaa waswaasku waa nooca oo waxa weeye qofka qalbigiisii iyo waxa weeye intuu ku mashquuliyo oo waxa weeye ku akriyo ilaa qofkii waxa weeye uu macsidii ku dhaco ayuu isku dayayaa inuu waxa weye unan qofkan ka arin fawaswasa lahuma ashaydaanu liyubdiya lahuma maa wuriya canhuma
min saw-aatihima inuu tusiyo cawradoodii oo dharkii ay qabeen iyo wixii ilaahay ku asturay inuu ka qaado oo waxa weeye ay halaagsamaan ayuu ugu talagalay marka saasuu rabay markaasu waxa weye uu tusiyey mar alle markay geedkii dhedhamiyeen ayay markaa dhibaatada ku dhici doontaa wa qaala wuxuu yidhi maa nahaakumaa rabbukuma can hadihi shajara wuxuu yidhi ilaahay geedkan sababtuu idinka nahayey wax kale ma aha ilaa an takuna malakayn laba malaa'ig ayaad noqonaysaan malaa'igtaa ka mid noqonaysaan oo laba melag baad noqonaysaan haddaad geedkan cuntaan aw takuna min alkhaalidiin ama waxaad noqonaysaan kuwa aan weligood dhiman waxa weye sababta geedkan lagugu diiday waa inaadan malaa'igta ka mid noqon iyo waxa weye inaad dhimatid haddaad marka geedkaa cuntid malaa'igtaad ka mid noqonaysaan oo laba melag baad noqonaysaan ama waxa weeye weligiin ma dhimanaysaan oo waa noolaanaysaan wa qaasamahuma dhaar buu isku xaabiyey oo waa dhaartay innii lakumaa la min annaasixiin waxaan idinku dhaaranayaa buu yidhi inaan idinka idin naseexaynayo ee aana wax kale idinka rabin anigu bal qof khaa'ina oo doonaya inuu waxa weeye ku dhumiyo haddana kuugu dhaaranaya inuu adigii nasiix ku yahay adigii wanaag uu ku wado buu ku dhaaranaya oo waxa weye kitaab ku maraya waxa weye waa camalu ibliis wey fadallaahumaa biguruur wuxuu tusiyey marka kedis waa kediyey marka wax beenu intuu uqurxiyey ayuu ku riday markaa falama daaqa ashajara markay geedkii dhedhamiyeen badat lahumaa saw-aatuhuma xumaantoodii waa u muuqatay cawradoodii ayaa u muuqatay leannahu awal ilaahay baa ka asturay oo waxa weeye ilaahay baa asturay oo cawradooda ma ayna arkaynin xumaantoodii baa markaa u muuqatay marka badat lahumaa saw-aatuhuma wa dafiqaa yaksifaani calayhima min waraqi aljanna waxay isku dayeen marka inay dhirtii ku dhex cararayaan oo dhirtii waxa weye ku laalaabanayaan oo caleentii jannada ay isku dhedhejinayaan oo isku asturayaan wanaadaahuma ilaahay baa u yeeray marka rabbuhumaa ilaahay baa u yeeray alam anhakumaa miyaanan idinka naayiyin can tilkuma ashajara geedkaa miyaanan idinka naayiyin wa aqul lakumaa miyaanan idin odhan aadam iyo xaawo miyaanan idin odhan ina ashayطaana shaydaan lakumaa caduwu mubiin war cadowgu idin yahaye iska ilaaliya oo waxa weeye yuuna idin khatalin oo yuuna bohol idinku ridin miyaanan idin odhan qaala rabbana dalamna anfusana wain lam takfir lana watarxamna lanakunana min alkhaasiriin ilaahay bay u toobad keeneen maay odhan sidii ibliis waxa weeye inuu yihi maaragtay anaa ka khayr badan iyo waxa weeye ictiraaf lama imaan ilaahayow nafteedii baan dulminay dembi baan gallay khalad baan gallay waanu isgarannay ilaah waa kuu toobad keennay haddaadan marka naga toobad aqbalin oo aadan noo naxariisan oo aadan noo dembi dhaafin hadda waa khasaaraynaa marka inta khasaartaan ka mid noqonaynaa sidaas daraaddeed marka ilahay u naga toobad aqbal qaala hbituu hoobta ayaa la yidhi marka bacdukum libacdin caduw walakum fi lardi mustaqarun wamataacun ilaa xiin orda taga baa la yidhi marka jannada ka baxa oo dhulka taga dhulka ayaa tegaysaan oo joogaysaan ilaa iyo wakti intii laga gaarayo ilaa qof walba intuu ama ka dhimanayo ama ilaa yowma alqiyaama intii laga gaarayo qaala fiiha taxyawna wa fiiha tamuutuun wa minha tukhrajuun meesha dhulka ayaad ku noolaanaysaan markaad dhimataanna waa laydinku xabaalin marka hadhowna yowma alqiyaama la imaanayana dhulkaa laydinka soo saaraya oo waxa weye halkaasaad waxa weye laydinka soo saaraya ee orda taga baali qaala wuxuu yidhi haddana ilahay aayad kale wuxuu ku yidhi aayadahaas marka waa fi suurati alacraaf aayadda 11 ilaa 25 haddana ilahay aayad kale waxa uu ku yidhi fi suurati daha minhaa khalaqnaakum ay dhulkii baa laydinka abuuray oo nabiyullaahi aadam hadda ciid baa laga abuuray dhoobaa laga abuuray minhaa khalaqnaakum wa fiiha nucuudukum wa minhaa nukhrijukum taaratan ukhraa iyadii ayaa laydinku xabaalayaa haddana markaad dhimataan marka horena iyadaa laydinka abuuray haddana dhulkaa laydinku xabaalin haddana waa laydinka soo saarin oo markii waxa weeye layda soo noolaynayo oo aakhira la imaanayo dhulkaa la iska soo saaraya ilaahay haddana wuxuu qisadan si fiican ugu kala saarsaaray oo waxa weye ay aad u dheer tahay maaragtay fi suurati xijri oo kale ilaahay aad buu uga hadlay oo waxa weeye ku bayaaniyey ilahay wuxuu yidhi walaqad khalaqna alinsana min salsaalin min xama'in masnuun ay macnaha diinun yaabisun macnaha dhoobo yaabisa oo qallalan oo waxa weeye salsalku waxa weye wux marka inta qallalaan sida dhagaxa didibkaa oo kale marka min xama'in masnuun macnaha dhoobo madoobaatay oo qalashay oo waxa weeye qallalan ayaa ilaahay ka abuuray ayuu yidhi
ilaahay markaa wuxuu yidhi haddana markaa waljanna khalaqnaahu min qablu min naari samuum. haddana waxaan ka ninka la yidhaahdo shaydaan iyo jinnigiina, leanno shaydaan jinnigu ka mid aha, jinkana waxaan ka abuurnay buu yidhi ilaahay min naarin maaragtay min naarin, naar ayaan ka abuurnay samuumin, ay macnaha naarun laa dukhaana laha ayay culummadu yidhahdaan, macnaha naar aan qiic lahayn oo ololaysa ayaa laga abuuray. ilahay waxau yidhi marka waid qaala rabuka lilmalaa'ikati inii khaaliqun bashara min salsaalin min xama'in masnuun. ilahay aayaddan wuxuu ku caddeeyey inuu malaa'igta la hadlay intuuna nebi aadam abuurin oo yidhi dhoobaan ka abuurayaa, markaan dhoobadaa ka abuuro oo aan dhammaystiro oo aan waxa weye nafta ku afuufo u sujuuda marka. fa idaa sawaytu wa nafaktu fiihi min ruuxi faqacuu lahu saajidiin ayaa la yidhi. haddii aan abuuro oo nafta ku afuufo oo aan dhammaystiro oo aan qof ka dhiga caadiya u sujuuda marka ayaa la yidhi. fasajada almalaa'ikatu kulluhum ajmacuun, malaa'igtii o dhan waa sujuuday ilaa ibliisa, ibliis mooye abaa an yakuna maca saajidiin, wuu diiday inuu isagu ka mid noqdo dadkii sujuuday. marka istisnaaga ilaa ibliisa hadhow baynu qodob gaara ku tafsiilinaynaa, ma malaa'igtuu ka mid ahaa oo maxaa malaa'igta looga soo reebaya, mise waxa weeye ka mid ma ahayn. hadhow baynu waxa weye dib inooga imaanaysaa oo aynu kala saaraynaa insha allahu tabaaraka watacaala. ilaahay markaasu waxa uu yidhi ibliis ayaa diiday marka, oo waxa weye ibliis waa diiday inuu sujuudo. ilaahay wuxuu yidhi marka yaa ibliisu, ibliisow maa laka laa takuna maca saajidiin, maxaa u sujuudi weyday oo uga mid noqon weyday dadka sujuuday. qaala wuxuu yidhi lam akun liasjuda libasharin khalaqtahu min salsaalin min xamain masnuun, qof bashara oo waxa weeye aad dhooba ka abuurtay aniga uma sujuudaya buy. see ugu sujuuda aniga oo naar layga abuuray oo ka sharaf badan oo ka fiican, see baan ugu sujuudaya. qaala wuxuu yidhi ilaahay marka fakhruj minha fa inaka rajiim, ka bax baa la yidhi jannada, mid naxariista laga dheereeyey adigoo ah oo rajiim ah, waa waxa naxariista laga dheereeyo, ka bax baa la yidhi jannada marka. wa ina calayka lacnat, nacladii ilaahay baa dushaada ku dhacday marka, oo nacladeydii baa kugu dhacday ilaa yowm iddiin, ilaa iyo yowm alqiyaame, nacladii ilaahay ayaa dusha kaga dhacday, ka bax baa la yidhi jannada marka. qaala rabbi faandirnii ilaa yowmi yubcathuun, ilaahayow ii kaadi buu yidhi ilaa iyo inta laysa soo saaray, ilaa iyo waktiga laysa soo saarayo oo waxa weeye aakhire la iskeenayo, ilaahaw rabbi ii kaadi marka. oo maxaad samaynaysaa marka haddii lagu kaadiyo? dib buu ka sheegi doonaa waxa uu samaynayo haddii loo kaadiyo. ilahay wuxuu yidhi marka ilaa yowmi yubcathuuna lai kaadiye buu yidhi. qaala fa inaka min almundariin, waa lagu kaadinayaa ba la yidhi ilaa yowmi alwaqti almacluum, ilaa wakti la og yahay oo macluuma, waa yowm alqiyaama weeye, ma dhimanaysid oo waa lagu kaadinaya. qaala rabbi buu yidhi markaa bima aqwaytanii lauzayinana lahum fi lardi wala uqwiyannahum ajmaciin. ilaahayow maadaama anigii lay dhumiyey oo sababta aniga dhibaatadu iigu dhacday ay tahay daraaddiis, ballan waxaan ku qaadayaa inaan dhulka u qurxiyo oo waxa weye inta arlada u qurxiyo waxyaalaha yaal iyo macaasida iyo dhibaatada aan ku rido, inaan gebigoodaba dhumiyo oo waxa weye ay jahanamo ila galaan ayaana na ballan qaaday. ilaa cibaadaka minhum almukhlasiin, addoommadaada adiga cibaadada kuu gaar yeelay mooye. marka waa ilaahay mahadi, haddii qeyb laga soo reebay, ilaahu qeybtaa naga mid dhig kuwa mukhlisiinta oo ilaahay u gaar yeelaya waxa weeye cibaadada, oo aan shirki ilaahay la wadaajinaynin, oo waxa weye ilaahay keliya caabudaya, rabbigii subxaana qaadirkaa ha naga mid dhigo wey. qaala wuxuu yidhi ilaahay baa markaa hadlo wuxuu yidhi hada siraadun calaya mustaqiim ina cibaadii laysa laka calayhim sulطaanu ila man itabacaka min alghaawiin. haddaba waxa weye sida saxiixa waa taa weeye, oo dariiqa xaqa waa kaa, qof aniga iyo caabudaya oo mu'mina ma aad dhumin kartid, xaqna uma aad lihid, mana awoodi kartid, awoodna uma haysatid, oo waxa weye ilaahigii subxaana qaadirkaa ayaa waxa weye ilaalinaya. ilaa man itabacaka min alghaawiin, kuwa waxa weye hawadooda raacay oo dhumay oo halaagsamay unbaad waxa weye dhuminaysa, kuwa iyo adigana waxa weeye jahanamo ayaa ballan ah. wa ina jahannama la mawciduhum ajmaciin, adiga iyo kuwaasba ballantaan idii qaadaya waa jahanamo wey, oo waxa weye jahannamaad geli doontaan oo halkaasaan idinku guraya. lahaa sabcatu abwaabin likulli baabin minhum juz'un maqsuum,
toddoba albaab bay leedahay oo waxa weeye albaab walba qayb loogu talagalay baa ka gelaysa oo macruufa oo ilaahay ugu talagalay ayaa halkaa ka gelaysa ayuu yihi ilaahay oo ku caddeeyey. marka sidaa daraaddeed ilaahayga subxaana qaadirkaa in laga magan galo jahannama ayaa waxa weye aad iyo aad u muhiima, oo qofku mar walba ilaahay uu jahannabo ka magan galo ayaa muhiim jiddan ah. aayadahaas marka fi suurati alxijri ayuu ilaahay kaga hadlay ilaa aayadda 26 ilaa waxa weye maaragtay 44 ayuu aayadaha ilaahay ku keenay. haddaba marka waxaan usoo gudbayna haddana aayadaha kale oo waxa weye ilaahay haddana uu ku keenay qisatu maaragtay aadam calayhi salaam. ilaahay waxa uu yidhi waid qulnaa lilmalaa'ikati isjuduu liaadama fasajaduu ila ibliisa kaana min aljinni. halkan ayuu ilaahay ku caddeeyey inuu ibliis jinni ka mid ahaa ee waxa weye una malaa'ig ka mid ahayn. hadhowna dib bay inooga imaanaysaa aqwaasha culummada iyo habka ay ku kala saareen oo ku caddeeyeen. fafasaqa can amri rabbi, arrintii ilaahayna waa ku gaaloobay oo waxa weye faasiq buu noqday oo waxa weye wuu diiday inuu waxa weye jidkii ilaahay inuu raaco, waa diiday. afatattakhiduunahu wa duriyatahu awliyaa, dadkii baa lala hadlay waxaa la yihi war isaga iyo duriyadiisa miyaad waxaa ka dhiganaysaan awliyo oo waxa weye aada raacaysaan, wahum lakum caduw, iyagoo cadow idii oo waxa weye cadow, iyagu waa idala dagaalamayaan, cadow bay idin yihiin, idinkiina waxaa ka dhiganaysaan ehel iyo gacal iyo waxa weye awliyaad ka dhiganaysaan. see caqligiinu yahay weye marka. ilahay aayad kale waxa uu ku yidhi walaqad cahidnaa ilaa aadama, maaragtay fi suurati daha ilahay wuxuu yidhi walaqad cahidnaa ilaa aadama min qablu fanasiya walam najid lahu cazma. ilahay wuxuu yidhi nebi aadam ballan baan ka qaaday, ballantaasi waxay ahayd walaa taqrabaa hadihi shajara, geedka ha u dhawaanina li, oo geedkii loo diiday oo la yidhi ha u dhawaanina ayuu nabiyullaahi aadam intuu shaydaan ka qaalib noqday ayay geedkii cuneen, isaga iyo waxa weye xaawa ayay geedkii cuneen. markaa waid qulnaa lilmalaa'ikati isjuduu liaadama fasajaduu ilaa ibliisa abaa, ibliis waa diiday inuu u sujuudo laakiin malaa'igtii kaloo dhan waa sujuuday. faqulnaa yaa aadamu ina hada caduwun lak, waa loo sheegay nebi aadam calayhi salaam, waxaa la yidhi ninkaan ma ujeedaa shaydaana cadowga kuye, adiga iyo waxa weye xaaskaagaba iyo duriyadaada cadowgu idiye ee iska ilaaliya. ina hada caduwun laka walizawjika falaa yukhrijanakumaa min aljannati fatashqa, jannada hadiyuuna idinka saarin, haddii jannada uu idinka saaro oo adduunka laida geeyo hadda waa dhibtoonaysaa markaa, leanna waxa weeye jannadii ku raaxaysaa lagu yidhi, camal lagaama rabo, waxba samayn maysid, laakiin haddii aad adduunka tegtid hadda biil baa lagaa rabaa iyo camal iyo shaqo iyo wax walbaa lagaa rabaa. haddaba ogow baa la yidhi marka ninkaa yuusan jannada idinka saarin oo iska ilaaliya oo waxa weye cadow weeye iska ilaaliya. ina laka an laa tajuuca fiiha walaa tacra, waxaad jannada dhexdeedii ku leedahay inaadan gaajoon, dhibaata kugu dhicin, aadan waxa weye wax mashaakila la kulmin, ku raaxaysatid, aadan oomin, aadan waxa weye wax mashaakila qorax arki maysid oo oomi maysid oo gaajo arki maysid oo mashaakil kugu dhici mayo. fawaswasa lahuma shaydaan, fawaswasa ilayhi shaydaanu, shaydaankii ayaa waswaas waxa weye intuu u yimid ayuu waxyaalo beena uu u qurxiyey oo u dhaartay, waatuu u dhaaranayey oo lahaa maaragtay wuxuu ku yidhi markaa yaa aadamu hal adulluka calaa shajarati alkhuldi wa mulkin laa yabla. meeshii bilow aadmiga ugu daciifsanayd oo waxa weeye qofku inuu mar walba wuxuu jecel yahay iska noolaado, ama waxa weye uu boqortooye haysto, ama waxa weye uu madax yahay ayuu iska jecel yahay bilow aadmigu. marka waa meeshii buu ka soo galay, waxa uu ku yidhi ma ku tusiyaa maaragtay shajarati alkhuldi, geedkii lagu noolaanayey oo aan weligii lagu dhimanay ma ku tusiyaa, wa mulkin laa yabla, iyo boqortooye aan dhammaanaynin. faakalaa minha fabadat lahumaa saw'aatuhuma wadafiqaa yaksifaani calayhima min waraqi aljanna wacasaa aadamu rabbahu fagawa. ilaahay bay caasiyeen oo waxa weye wixii laga naahiyey buu ku dhacay. marka caasinimadaas uu ilaahay caasiyey waxa weeye macnaha geedkii bay cuneen ayaa waxa weeye meeshaa ku cad marka. uma ijtabaahu rabbahu fataaba calayhi wahada, ilaahay baa laakiin naxariis iyo wanaagiisa ayaa ilaahay u naxariistay oo waxa weeye uu soo celiyey oo waxa weeye soo hanuuniyey oo waxa weye ku ilhaamiyey inuu toobad keeno. wuu toobad keenay, ilahayna waa ka toobad aqbalay. qaala hbiطaa minha jamiican
bacdukum libacdin caduwun hoobta baa la yidhi orda dhulka taga qaarkiiba qaarka kaluu cadow u yahay oo waxa weeye idinka ayaa cadow isku ah haddana markaasaa waxa ilaahay uu yidhi fa imaa yaatiyanakum halkan waa bishaara weeye oo ilaahay baa bishaaraynaya binu aadamigii noo bishaaraynaya ilahay wuxuu yidhi fa imaa yaatiyanakum haddii uu idin yimaado minii hudaa hanuun xaggayga ka yimid haddii uu idin yimaado ee waxa weeye macnaha kutub la idiin soo dejiyo oo rasul la idiin soo diro faman ittabaca hudaaya falaa yadilu walaa yashqa qofkii aniga hanuunkayga raaca oo dariiqa xaqaa mara falaa yadilu ma dhumayo oo ma baadiyoobayo adduunka intuu joogo walaa yashqa ayaan dara ku dhici mayso aakhiro oo naar geli mayo waman acrada can dikrii fa ina lahu maciishatan danka qofkii laakiin hanuunkayga ka leexda oo dariiqayga raaci waaya oo waxa weeye ka leexda wuxuu leeyahay markaa maciishatan danka maciisho ciriiriya dhibaato badan mashaakila ayuu leeyahay wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acma marka adduunkiina waa lagu hoojiyey oo mashaakil iyo ciriiri iyo faqri iyo mashaakil oo dhan baa la geliyey aakhira markuu yimaadana isagoo indhala baa lasoo kulminaya wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acma isagoo indhala oo waxa weeye maalinta dadkii indhaha qabay ay tacbaanka yihiin oo waxa weye mashaakil ku batay oo qoraxdii lasoo dhoweeyey isaga waxaa la keenaya isagoo indhala oo waxa weye baa lasoo dhigaya oo la keenaya markaasuu wuxuu odhanayaa qaala rabbi lima xashartanii acma ilaahayow maxaad iisoo kulmisay anoo indhala waqad kuntu basiira adduunka markaan jooga waxbaa arki jiray waa maxay indhala-aantaan maanta ilaahay baa u jawaabay wuxuu leeyahay qaala kadalika atatka aayaatuna fanasiitaha wakadalika alyawma tunsa aayaadkayagii iyo diintii kuu timid ayaad ilowday adduunka markaad joogtay oo iska indha tirtay maantaa lagu ilaawey oo waxa weeye indhala-aantii aad adduunka ku joogtay aakhirana indhala-aan ku imow leanna waxa weeye indhaha asalkaahi waxa weeye waa iimaanka wey qofka indhaha qaba oo saxiixa oo waxa weeye xaqa ku taagan waa qofka iimaanka iyo waxa weeye camal saalixa samaynaya amaa indhaan leeyaha waxbaan arkaa oo waxa weeye dembi baan iskaga dhex jira waxba ka ramaysataa fi suurati daha ayuu ilahay aayadahaasna ku keenay 115 ilaa 100 ilaahay sidoo kale haddana waxa weeye wuxuu kaga hadlay oo qisadeeda aad iyo aad ugu dheereeyey oo waxa weye aan kusoo gebagabaynaynaa aayadaha fi suurati sad ayuu ilaahay maaragtay haddana kaga hadlay ilaahay waxa uu yidhi nebi maxamed buu la hadlo waxaa lagu yidhi qul huwa naba'un cadiim ku dhebaa la yidhi dadkaaga diintan aan idinku dul akriyayo iyo kitaabkaan soo degay iyo waxyigaani waa arrin aad iyo aad waa war weyn weeye oo waxa weye naba waa warka war aad u weyn weeye antum canhu mucriduun idinka ayaa ka jeensanay sababtu waxa weye aakhiru kitaabku ka sheekaynaya nebi aadan buu ka sheekaynaya ummadihii horuu ka sheekaynaya waxa dhici doonuu ka sheekaynaya marka waa arrin aad iyo aad cajiiba wey idinkaa ka jeensanaya marka ma kaana lii min cilmin bilmala'i alaclaa id yakhtasimuun waxaad ku dhahdaa baa la yidhi aniga waxaan cilmi horay uma lahayn markay malaa'igta iyo waxa weeye ibliis iyo waxa weeye aadam iyo markii kor inta la joogay arrintaasi dhacaysay oo waxa weeye arrintan ay imaanaysay oo jannada laga saarayey oo ibliis laga cayrinayey oo sujuuda diidayey oo malaa'igtu sujuudaysay aniga waxaa horay uma aqoon in yuuxaa ilaya ee xaggee ka keentay nebi maxamedow haddaadan horay u aqoonin in yuuxaa ilaya in yuuxaa ilaya ilaa anamaa ana nadiirun mubiin waxaa la ii waxyooday keliya aniga inaan nebi ahay oo waxa weeye nadiir baan ahay idii digaya marka waa la ii waxyooday aniga wey anigu wax kale meesha kuma haye wixii ilaahay ii waxyooday ayuun baan idin soo gaarsiiyey wey idinku ama diida ama qaata markaa waxayna ahayd marka qisadiisii markaa keenay nebi aadam qisadiisi baa la keeno ilahay waxa uu yidhi id qaala rabuka lilmalaa'ikati inii khaaliqun basharan min tiin waxaan abuurayaa bashar oo waxa weeye laga abuurayo dhoobo fa idaa sawaytuhu wanafaktu fiihi min ruuxii faqacuu lahu saajidiin haddii aan nafta ku afuufo aan dhammaystiro oo waxa weeye qof caadiya noqdo u sujuuda markaa fasajada almalaa'ikatu kulluhum ajmacuun malaa'igtii o dhan waa sujuuday ilaa ibliisa istakbara wa kaana min alkaafiriin gaaladii ayuu ka mid noqday waana diiday inuu sujuudo oo waxa weeye kibir baa u gooyey oo arrintaa wuu diiday inuu sujuudo wey
ilahay wuxuu yidhi qaala ya ibliisu ma manacaka an tasjuda lima khalaqtu biyadaya, maxaa kuu diiday in aad waxa weeye u sujuudid waxaan anigu ku abuuray gacmahayga. nebi aadan maadaama anigu aan gacmahayga ku abuuray oon gacantayda ku abuuray, adigana aan ku yidhi u sujuud, maxaa kuu diiday inaad u sujuudid ood amarkayga qaadatid? astakbarta am kunta min alcaaliin, kibir miyaa ku galay iyo isla weynan, iyo waxa weeye arrintan waxaa kuu geeyey isla weynan miya? markaasuu hadlo wuxuu yidhi ou sheegay marka wixii u geeyey. ilay been ma soconayse xaqiiqadii waa inuu sheegaa, leanna ilaahay waa og yahay waxa u geeyey, qalbigiisa waxa ku jirana ilaahay waa og yahay. markaasu wuxuu yidhi qaala ana khayru minhu khalaqtanii min naarin wa khalaqtahu min diin. wuxuu deliishaday marka wixii laga abuuray iyo wixii nebi aadan laga abuuray anaa ka khayr badan buu yidhi. anigana naar baa layga abuuray, isagana waxaa laga abuuray dhoobo. marka naarta iyo dhoobadana naarta ayaa fiican oo naar ololeysa oo halkaa waxa weye wax walba gubaysa oo xoog la weye. dhoobo xunaho waxa weye daciifa, wax laga abuuray aniga uma sujuudayo ayuu leeyahy. ilahay baa markaa wuxuu yidhi qaala khruj minha fakhruj minha fa inaka rajiim. adoo naxariista lagaa dheereeyey oo waxa weeye naxariistii o dhan laga kaceeyey oo waxa weye halaag kuu sugnaaday, bax baa la yidhi marka oo jannada ka bax. ilahay wuxuu yidhi marka wa ina calayka lacnatii ila ywmi ddiin, nacladaydii iyo waxa weye nacladu waa naxariista in laga dheereeyo oo waa adardu min araxma. qaala rabbi faandirnii ilaa ywmi yubcatuun. ilahay u ii kaadi buu yidhi ilaa iyo inta la isu soo saarayo oo aakhire la soo saarayo, ilahay u ii kaadi. markaasuu ilaahay wuxuu ku yidhi waa laguu kaadinayaa marka, fa inaka min almundiriin, waa laguu kaadin ilaa ywmi alwaqti almacluum. qaala fabicizatika laugwiyannahum ajmaciin. ilaahay waxaan ku dhaaranayaa cizadaada iyo sharaftaada kulligood inaan dhumiyaa ballana oo aan baadiyeeyo, ilaa cibaadaka minhum almukhlasiin, addoommadaada waxa weeye adiga kuu gaar yeelaya oo warkayga aan yeelaynin oo adiga ku adeecaya mooye inta kale inaan dhumiya aniga igu ogta oo ballan waxa weye inaan baadiyeeyo. markaasuu ilaahay waxa uu yidhi oo la hadlay wuxuu yidhi qaala falxaqu walxaqa aquul laamlaana jahannama minka wamiman tabicaka minhum ajmaciin. ballan waxaan ku qaadayaa buu yidhi ilaahay inaan adiga iyo inta ku raacdaba aan waxa weye jahanabo ka buuxiyo oo aan ku guro ayaan ballana buu yidhi, oo waxa weye waad ogaan doontaa arrintaa. qul ma as'alukum calayhi min ajrin wama ana min almutakalifiin. waxaa lagu yidhi nebi maxamedow waxaad ku dhahdaa dadkan ku odhanaya saaxir baa tahay, shaacir baa tahay, waxaan adaa keensaday ku dhee baa la yidhi, anigu waxa weeye waxaan xaqaa oo aan idin keenayo ma as'alukum calayhi min ajri, wax aan idin weydiisanayo xoolaha ma jiraan. anigu ma kamid maihi dadka wax isku takallufaya oo waxa weye takliif isa saaraya, waxaan loo dirin doonanayana anigu ma ihi wey. in huwa ila dikru lilcaalamiin walataclamuna naba'ahu bacda xiin. waxaana idin sheegaya waa dikri ilaahay, waa waxyi ilaahay, waana ogaan doontaan buy, waana ogaan doontaan aakhiro iyo waxa weye goor dambaad ogaan doontaan inaan saxanahay iyo inaa waxa weye idinku saxantihiin iyo waxa weeye warkiisa iyo kitaabkan waxa uu sheegay iyo waxa weeye xaqiiqadu sida ay tahay aakhira markii la taga ad ogaan doontaa. fi suurati saad aayadahaas iyo ilahay kaga hadlay 67 ilaa iyo 88. qaala ibnu kathir raximahullah, ibnu kathir waxa uu leeyahay meelo aad iyo aad u badan ayuu ilaahay kaga hadlay ma aragtay nabiyullahi aadam qisadiisa, laakiin hadda waxaynu samaynaynaa madmuunka ayaynu ka soo qaadanaynaa. marka ulajeedadeenu hadda waxay ahayd inaynu dul marna aayadaha, laakiin aayadahan oo dhan hadhowbay waxay inoogu soo noqonayaan iyadoo qodob qodob qayb walba inta ay tahay aynu dhigayno oo aan kala saarsaarayno. haddaba marka waxaan ku xijinayaa inaynu sheegno haddana mar haddaynu aayadihii sheegnay axaadiista, waa qodobka labaad. waxaynu sheegaynaa axaadiista ku soo aroortay fi khalqi aadam calayhi salaam. can abi hurayrata radi allahu canhu waxaa laga wariyey inuu yihi rasuulka ilaahay waxa uu yihi ina allaha tacaala qad adhaba cankum cubayata aljaahiliya. ilaahay waxa uu idinka kaxeeyey waxyaalihii qurunka ahaa oo waxa weeye jaahiliga la isugu fahmi jiray oo qabiilka la isugu fahmi jiray, ilaahay waa idinka kaxeeyey haddaa muslimiintiin, iyo faankii lagu fahmi jiray aabbayaashii iyo awowayaashii dhintay. dadku waa laba nooc, mu'minun taqiy wa faajirun shaqiy. qof mu'mina
oo ilaahay ka cabsanaya oo taqiya oo waxa weeye dariiqii xaqaa ku taagan oo waxa weeye ilaahay caabudaya, iyo qof faajira oo ayaan daran oo waxa weeye khayr laawo ah oo waxa weeye shaqiya, ayay dadku u kala baxayaan. laakiin qabiil waxba tari mayo, qabiilkuu doonaa ka dhasho, ina akramakum cinda allahi atqaakum weye. markaasuu wuxuu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam, antum banu aadam, waxaad tihiin ilmihii nebi aadam ayaad kulligiin ka timaadeen, wa aadamu min turaab, nebi aadamna ciid baa laga abuuray. way isaga tegayaan buu yihi layadacanna rijaalun, oo waxa weye rag way iska daynayaan faanka ay ku faamayaan aabbayaashoodii hore u dhintay, way iska daynayaan. inamaa hum faxmun min faxmi jahannam, rag horay u dhintay oo mushrikiin ahaa oo naar lagu guray oo waxa weye naar lagu huriyey, faanka ay ku faamayaan way iska daynayaan, oo reer hebel baana isla soo taagayo, dad waxay ahaayeen una ka warqabin iyo waxay ku dhinteen una war u haynin. hadday taa dayn waayaan oo iska dayn waayaan, aw layakunanna ahwana cala allahi min aljuclaani alati tadfacu bianfahannatin. waxa weye juclaanku waa doorshaanka wey. markuu nebigu wuxuu ku tusaalay, wuxuu yihi qofka qabiilka ku faamaya hadduu iska dayn waayo qabiilka, ilaahay agtiisa wuxuu noqonayaa doorshaan oo kale. doorshaanka wasakda iyo qurunka waxa weeye afka ku delandelaysta, oo waxa weeye meelaha waxyaalaha qurunka inta gurta afka ku riixaya ayuu la mid noqonayaa ilaahay agti aakhiro markii la tago. imaamu axmed baa weriyey iyo abu daawud, waxasanahu sheekh albani fi saxiix aljaamic 1770 iyo waxa weye 87 ayuu ku xasan kaga dhigay. xadiidkaa marka wuxuu ina barayaa oo macal shaahidka aan u keena u yahay, antum banu aadam, nebi aadam baa ka timaadeen, wa aadamu min turaab, ay ciid baa laga abuuray nebi aadam calayhi salaam. xadiidkii abi muusa alashcari radi allahu canhu wuxuu yihi isagana sidoo kale, ina allaha tacaala khalaqa aadam min qabdatin qabadahaa min jamiici alardi. ilaahay wuxuu ka abuuray nebi aadam dhulka, ciid buu ka abuuray, hal xantoobaa la qabtay oo gacanta lagu soo qaaday oo dhulkoo dhan laga soo qaaday oo isku jirta oo nooc nooca oo waxa weye isku jirta ayaa la soo qaaday. fa jaa'a banu aadam calaa qadri alardi, sidii dhulku ahaa ayuu binu aadmigiina noqday. see bay marka u kala baxeen, mid waxaa ka mida gaduudan, mid waxaa ka mid a cad, mid madow baa ka mid a, iyo mid waxa weeye dhexdhexaada. intaasoo dhan ba waxa weye dhulkiiba isugu jirta. ciid madow baad arkaysaa, ciid gaduudan baad arkaysaa, ciid cad baad arkaysaa, kulli isku jir wey. haddaba nebi aadan ciiddaa laga abuuray, dadkiina ciiddu siday ahayd unbay noqonayaan. ciid dabacsan baa jirta oo wanaagsan, ciid xun baa jirta, ciid waxa weeye dayib oo wanaagsan, iyo mid khabiisa, wax walbay leedahay. dadkiina saas oo kaley noqdeen, oo waxa weeye ciiddii asalkii ayay noqonayaan. kullu shayin yarjicu ilaa asli wey. ciiddaa laga yimid, ciiddii baa la shabahayaa marka, oo qof walba ciidda habkii uu ka yimid ayuunbuu noqonayaa. marka maadaama ciiddii isku jirtay oo aan ciid gaara laga abuurin, hadda dadkii ciiddii oo kale ay noqonayaan. sidii ciiddu ahayd unbaa la noqonayaa weye. waa intaa la ogaado, ee waxa weye wax la isdheer yahay oo kanaa cad iyo kanaa madow waxba la iskuguma dheeraado wey. taqwo ayaa wax la isku dheer yahay. imaamu axmed ayaa weriyey iyo abu daawud iyo tirmidi. sheekh albanina wuxuu saxiix kaga dhigay fi saxiix aljaamic 1759 wey. wuxuu xadiidkaa marka inoo caddeeyey inaan waxba la isdheerayn, ee xaqiiqadu ay tahay in waxa weeye ciiddii laga wada yimid, inay waxa weeye farqiga iyo kala saarka inay sababtu ciiddii keenayso. wa can anas bni malikin radi allahu canhu waxaa laga wariyey inuu yihi, ilaahay markii uu lamaa nufika fi aadam alruux, markii nabiyullaahi aadam nafti lagu abuuray oo waxa weye nafti ilaahay ku afuufay, maarat wa daarat, naftii baa gashay jirkiisii oo jirkiisoo dhan ku duushay oo dhex gashay. fa saarat fii ra'si, madaxa ayay tagtay. fa cadasa, wuu hindhisay. fa qaala wuxuu yidhi alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin, ilaahay baa mahadle ayuu yidhi, ilaahay baa ku ilhaamiyey. faqaala allahu, ilaahay baa wuxuu yihi yarxamuka allah, ilaahay ku naxariisto. ibn xibaan ayaa weriyey iyo xaakim, wasaxaxu sheekh albani fi saxiix aljaamic 5200 iyo waxa weye 16 ayuu ku saxiixiyey. xadiid kale oo isagana sidoo kale waxa uu leeyahay abu hureyre uu weriyey, nebiga uu ka wariyey, wuxuu leeyahay nebiga calayh isalaatu wassalaam, khalaqa allahu aadama calaa suuratihi
wa tuuluhu 60 diraacan ilaahay wuu abuuray nabiyullaahi aadam calaa suuratihi. marka suuraddaa culammadu waa isku khilaafsan yihiin, ma suuraddii ilaahayba oo ilaahay si u ekaabu aadam u ekeysiiyey, mise waa calaa suurati aadam? waxa weye qowlka raajixa waa calaa suurati aadam wey. ilaahay waxa weye bashar uma eka, laysa ka midlihi shay-un wa huwa samiicu lbasiir. ilaahay bashar laguma meteli karo, umana eka, ee waxa weeye suuraddii aadam ilaahay ugu talagalay ayuu ku abuuray, dheerarkiisuna uu la eg yahay 60 diraacan, 60 dhudhun oo waxa weeye uu dheer yahay, aad iyo aad u dheer yahay ayuu ilaahay ku abuuray. uma qaala wuxuu ilaahay ku yidhi idhab aadamow orod tag, fasallim waxaad salaamtaa calaa ulaa'ika annafar, dadkaas nimankaa meesha fadhiya malaa'igtaa soo salaam, wahum nafarun min almalaa'ika juluusun, malaa'ig meel fadhida ayaa la yidhi orod malaa'igtaa soo salaam, oo waxa weeye assalaamu calaykum dheh ayaa lagu yidhi. ilaahay wuxuu ku yidhi fastamic maa yujiibuunaka, dhegayso waxa ay kuugu jawaabayaan. fa inahaa taxiyatuka wa taxiyatu duriyatika, waa salaantaada adiga iyo duriyaddaada, marka dhegayso baa la yidhi waxa ay kuugu jawaabayaan, orod iyagana soo salaan oo u tag. fa qaala wuu u tegey, fadahaba intuu tegey bu wuxuu ku yidhi assalaamu calaykum, salaam dushiina ha noqoto, nabadgelyo dushiina ha ahaato. fa qaalu waxay idhahdeen assalaamu calayka waraxmat ullah, salaam iyo nabadgelyo dushaada ha ahaato, ilahayna ku naxariisto. wuxuu yidhi marka xadiiskaa nebigu calayhi salaatu wassalaam, fa kullu man yadkhulu ljanna, jannada qof walba oo gelaya oo dadkii muslimiinta ah oo jannada gelaya waxay ku gelayaan calaa suurati aadam, sidii nebi aadam u ekaa quruxdiisii iyo wanaaggii ilaahay ku abuuray ayaa jannada lagu gelaya. fii tuulihi iyo dheerarkiisii 60 diraacan, ilaa iyo waxa weye 60 dhudhun ayuu ahaa dheerarkiisu, sidii baa marka jannada lagu gelaya. wuxuu yidhi marka nebiga calayhi salaatu wassalaam, falam tazal ilkhalqu, dadkii kama suulin inay waxa weeye tanqusu bacdahu xata al'aan, in lasoo yaraanayo marka dadku marka hore waa dheerdheeraayeen oo waxa weye dad aad u dheer bay ahaayeen, laakiin waa lasoo gaabanaya oo maalinba maalinta ka dambaysa dadkii waa soo gaabanaya. iminka waxaa lala yaabaa qofkii 2 mitira, waad arkaysaa in telefishinada laga sheegayo, lala yaabayo qofkan waa dheer yahay, 2 mitir buu dhaafay, xagguu tegey. bal ka waran marka 60 dhudhun oo waxa weeye aad iyo aad u dheer, hadday arki lahaayeen maxay odhan lahaayeen marka? xadiiskaana waa muttafaqun caleyh weeye, oo waxa weye xadiis saxiixa oo muttafaqun caleyh weye, bukhaari iyo muslim iyo imaamu axmed iyo ayaa wariyey, waa xadiis saxiixa. wuxuu inoo faa'ideeyey marka in nabiyullaahi aadam 60 dhudhun in lagu abuuray oo dheerarkiisa ay 60 dhudhun ahaa, ayuu xadiidkaani inoo caddaynayaa oo hadhow baynu dib ka sheegi doonaa insha allahu tabaaraka watacaala. wa can abi hurayrata radi allahu canhu waxaa laga wariyay abu hureyre inuu yidhi khalaqa allahu turbata, ciiddii ilaahay wuxuu abuuray yowma sabti, maalin sabtiga ayaa ciidda la abuuray ayuu yidhi nabiga calayhi salaatu wassalaam. wa khalaqa fiiha aljibaal, buurihiina wuxuu abuuray yowma alaxad, maalintii axadda ahayd. wa khalaqa ashajara yowma alithnain, geedihiina ilaahay wuxuu abuuray maalin isniinta yowma alithnain ayaa la abuuray. wa khalaqa almakruha yowma thulutha, maalintii talaadadiina waxaa la abuuray waxyaalihii dhibta ahaa iyo mashaakilkii iyo wixii dhici lahaa iyo makruha wax la neceb yahay wey. wa khalaqa annuura, nuurkana wuxuu abuuray yowma alarbicaa, maalin arbicaa ayaa nuurkii iyo iftiinkii iyo wanaaggiina la abuuray. wa basa fiiha addawaaba yowma alkhamiis, xayawaankii dawaab waxa la yidhaha wax alla wixii nool oo ku dul socda dhulka, khaasatan waxyaalaha xayawaanka ayaa la yidhaahdaa, waa 4 lugood leh. maalin khamiisa ayaa ilaahay abuuray. wa khalaqa aadam bacda alcasri min yowmi aljumuca ayuu ilaahay abuuray. nabiyullaahi aadam ilaahay wuxuu abuuray jumcihii bacda alcasri fii aakhari alkhalqi, isaga ayaa ugu dembeeyey waxa ilaahay uu abuuray fii aakhiri saacatin min saacaati aljumuca, saacadihii ugu dembeeyey maalintii jumcaha ayuu abuuray. fii ma bayna alcasri ila alleyl, intii udhexaysay casarka iyo waxa weeye intaan qoraxdu dhicin, waktigaa ayaa la abuuray. imaamu axmed iyo imaamu muslim ayaa wariyey, waana xadiis saxiixa. sheekh albani siduu ku caddeeyey fi saxiix aljaamic
iyo silsilati axaadiis saxiixa waxa weye raximahullah. halkaa marka waxay nooga caddaatay xadiidka nabiyullahi aadam calayhi salaam in la abuuray maalin jumca oo waxa weye jumcihii la abuuray, weliba bacda alcasri, weliba waxa weeye markay intayna qoraxdu dhicin oo waxa weeye waktiyadii ugu dambeeyey maalinta, khalqigoo dhanna inuu isaga ugu dambeeyey oo waxa weye isaga loogu dambeysiiyey ayaa waxa weye halkaa inooga caddaatay. wa can abi darda wuxuu yihi radi allahu canhu can inabiyi sala allahu alayh wasalam, nebigu waxa uu yidhi khalaqa allahu aadam, ilaahay aadam buu abuuray, fadaraba katifahu lyumna, garabkiisa midig ayuu dharbaaxay oo waxa weye ilaahay gacanta ku dhuftay, fa akhraja duriyatan baydaa'a kaannahum allaban, waxaad duriyad aad moodid caano dhalaalaya oo aad iyo aad u qurux badan oo dhalaalaya ayuu ka soo saaray garabkiisa midigtaa. haddana bidixdii buu ku dhuftay, markaasuu wuxuu ka soo saaray duriyad madmadow oo aad moodid inay gubatay oo baaba'day oo aad u madow ayuu ka soo saaray. markaasuu wuxuu yidhi kuwii midigta ku jiray haaulaa'i fi ljanna walaa ubaali, kuwaa jannadaan ugu talagalay danna ka geli mayo. wa haaulaa'i fi nnaar ayuu yidhi kuwii bidixda ku jiray oo waxa weeye kuwii garabka bidixda laga soo saaray ayuu yidhi wa haaulaa'i fi nnaar walaa ubaali, kuwaana naar baan geynaya danna u geli mayo. ibnu casaakir ayaa weriyey wasaxaxahu sheikh albani fi saxiix aljaamic 3234 iyo mishkaat almasaabiix 100 iyo waxa weeye 19 silsilata axaadiis saxiixa 49 ayuu ku saxiixiyey, waa xadiis saxiixa. marka halkaa marka waxay nooga caddaatay waa alqada walqadar wey, oo waxa weeye ilaahiyga subxaana qaadirka markuu nabiyullaahi aadam abuuray ayuu duriyadiisii oo ka imaan doonta oo dhan ayuu u kala xukmiyey wixii naar geli lahaa iyo wixii janno geli lahaa. saas ayaa waxa weye loo kala caddeeyey oo mid walba waxa weye dariiqeedii la caddeeyey oo waxa weye wax cad wey. qof walbana ilaahay wuxuu waafajinayaa wixii waxa weye loogu talagalay ayaa waxa weeye la waafajinaya. leanna axaadiis badan baa ku sugnaatay inuu nebigu yidhi markaas calayhi salaatu wasalaam, qof walba waxaa loo fududaynayaa fa kullun muyasarun lima khuliqa lah. icmaluu, saxaabada qayb ka mid ah ayaa adeen maxaan marka camalka u samaynaynaa haddiiba dadkii mar hore loogu kala talagalay. markaasuu nebigu wuxuu yidhi icmaluu, camal sameeya, fa kullu muyasarun lima khuliqa lah. qof walba waxaa loo fududaynayaa wixii ilaahay ugu talagalay. marka dariiqii lagugu talagalay ayuunbaa lagu fududayne, haddaba camal samee oo ilaahay ka cabso oo dariiqii xaqa aha markaasaad wanaag gaaraysaa wey. waxaa kaloo laga wariyey can cabdillahi ibni daylami oo wuxuu leeyahay waxaan usoo galay can cabdillahi ibni camr ibni caas ayaan usoo galay, faqultu waxaan ku yidhi inahum yazcumuuna anaka taquul, ay dadku waxay sheegayaan inaad dhahaysid ashaqiyu man shaqiya fii badni ummi, qofka shaqiga ayaan daranaha wey naar gelaya, ehlu naarka oo kaafirka waxa weeye waa ninkii shaqi ku noqday markuu caloosha hooyadii ku jiray oo uurka hooyadii ku jiray oo waxa weeye aanu adduunkaba imaan, kii loo qoray inuu naar gelayo kaa un baa naar gelayaa tiri baa leyii. wasaciidu man sacida fii badni ummi, qofka waxa weeye wanaagsan na waxa weeye qofkii waxa weeye ilaahay ugu talagalay. faqaala wuxuu yidhi markaa cabdullahi ibni camr ibni caas, laa uxilu liaxadin yakdibu calaya, uma banaynayo umana banaana, xaaraan bay ka tahay qof inuu aniga igu been abuurto. laakin bu yidhi samictu rasuula allahi sala allahu alayh wasalam, rasuulka ilaahay baan ka maqlay yaquulu odhanaya, ina allaha tacaala khalaqa khalqahu fii dulmatin, ilaahay wuxuu abuuray addoommadiisii oo nebi aadam markuu abuuraya ama khalqigoo dhan ba mugdi ayuu ku abuuray, meel mugdiya ayuu ku abuuray oo waxa weeye dulmi waa mugdigaa laga wadaa. fa alqaa calayhi min nuuri, nuurkiisii ayuu ku riday markaa meeshii mugdiga ahayd. faman asaabahu min dalika, qofkii maalintaa uu nuurkaasi asiibay ihtadaa, waa hanuunaya. waman akhdaahu, qofkii nuurkaasi ka leexday oo una ku dhicin dalla waa dhumay. macnaha alqada walqadar weeye, qofkii ilaahay uu u qadaray iimaan iyo camal saalixa iyo wax wanaagsanna hadda camal saalix uu samaynaya oo waa wanaagsanaanaya. kii ilaahay u qadaray halaagna hadda halaag buu ku dhacayaa oo waa dhumayaa wey. xadiidkan waxa weriye imaamu axmed iyo tirmidi, xaakim, wasaxaxahu sheikh albani fi saxiix aljaamic
1764 iyo mishkaat almasaabiix 1001 iyo silsilata axaadiis saxiixa 1067 ayuu ku saxiixiyey. waa xadiis saxiixa wey. haddaba halkaa waxaan uga gudbaynaa marka axaadiistii iyo waxa weye aayadihii oo aan soo dulmaraynay oo aan ka sheekeynaynay inay waxa weeye khalqigii nabiyullahi aadam iyo waxa weeye sidii ilaahay u abuuray iyo waxa weeye aayadihii ka hadlayey iyo waxa weye axaadiistii ka hadlayey. haddaba qodob baan u kala qaadaynaa marka, waan qodobaynaynaa marka, oo waxa weeye aayadahaas iyo adiladaas soo aroortay ayaan qodobaynaynaa, aqwaashii culummada dhex gelinaynaa, oo waxa weye aan kala saaraynaa marka haddii rabbeedmo insha allah. qodobka saddexaad waxa weeye almalaa'ikatu yas'aluuna allaha can xikmati khalqi aadam calayhi salaam. waa inagii soo marnay oo ku soo bilownay inay waxa weeye malaa'igtii ay yidhaahdeen markuu ilaahay yidhi waid qaala rabbuka lilmalaa'ikati innii jaacilun fi lardi khaliifa, ay macnaha malaa'igtii markuu ogeysiiyey oo u sheegay ilaahay oo yidhi waxaan abuurayaa aadam duriyadiisa oo dhulka joogi doona oo waxa weye iska dhaxli doona oo qaarba qaar ay ka dhaxli doonaan ilaa yowma alqiyaama ayaan abuurayaa. ayay malaa'igtii waxay yidhahdeen oo maxaad u abuuraysaa? ilahay marka aayad kale waa isagii ku lahaa wayajcalukum khulafaa'a alardi, ay macnaha dhulkii baad iska dhaxlaysaan oo qaarba qaar uga dambeeyaan, jiilba jiil buu u dhiibayaa. marka khaliifa noocaasaa la yidhaahdaa, dadkii dhulka ku noolaa oo iska dhexlayey oo joogayey oo qaarba qaar ka dhexlayeen ilaa yowma alqiyaama saa ku soconay. markaasay weydiiyeen oo waxa weeye wuxuu leeyahy ibnu kathiir raximahullah qaalat ilmalaa'ikatu malaa'igtu faqaalat ilmalaa'ikatu saa'iliina calaa wajhi alistikshafi walxikma, xikmad ayay weydiinayaan ma aha buu yidhi laa calaa wajhi alictiraadi watanaqusi libani aadam, inay nabiyullaahi aadam iyo waxa weeye duriyaddiisa ay tanqiisinayaan ma aha, inay dhahayaan maaha maxaa looga baahan yahay, ee macnuhu waxa weeye ilaahay ow maxay tahay xikmadda ku jirta oo aad uga dan leedahay oo xikmadda ka imaanaysa maxay tahay noo sheeg. ma aha sidii ibliis inay maaragtay xaasidnimo ay qarsanayaan oo ay doonayaan inay waxa weye ay xaasidaan ma aha, ee waxa weeye xikmadda ku jirta iyo wanaagga meeshaa ku jira oo aynan ogeyn ayay waxay leeyihin ilaahu noo sheeg maxay tahay xikmadda ku jirta. macnaha marka loo jeedo waxa weye waa nooca. qaaluu waxay idhahdeen marka atajcalu fiiha man yufsidu fiiha wayasfiku dimaa wanaxnu nusabixu bixamdika wanuqadisu lah. ilaahay ow ma waxaad abuuraysaa dad dhulka fasahaadiye? waxaa isa su-aal u baahan, seebay ku ogaadeen malaa'igtaani in dhulka la fasahaadinayo oo waxa weeye bini-aadmigu dhulka fasahaadinayaan? seebay ku ogaadeen? culummadu aqwaal badan bay leeyihiin. qaar waxay leeyihiin waxaa jiray khalqi hore oo ka horreeyey bini-aadmiga oo dhulka joogay oo fasahaadiyey dhulka, markaa ilaahay dabar tiray oo baabiyey. waxyaalo badan baa ku soo aroortay, laakiin ilaah baa garanaya habka ay ugu ogaadeen, laakiin kolley waxa weye way ogaadeen, ilaahayna markaa kuma inkirin oo waxa weye waa u qiray. waxay idhahdeen wanaxnu nusabixu bixamdika wanuqadisu laka, ay macnaha nacbuduka daa'iman, weligee waan ku caabudaynaa, laa yacsiika mina axadun, qof annaga naga mida oo malaa'igta ilaahay ma caasiyaan. macnaha annaga nin malaa'igtii mid ka mida oo ku caasiyayo ma jiro, maxaad uga baahan tahay marka dad kale iyo waxa weeye bashar haddeer waxa weye dhulka fasahaadinaya? annagaaba kugu filan oo ku caabudayna oo ku tasbiixsanayne, maxaad ilaahay ugu abuuraysaa? maxay tahay xikmadda ku jirtaa? macnaha waxay ka wadaan fain kaana almuraadu bikhalqi haaulaa'i an yacbuduuka fahaa naxnu, annagaa ku caabudayna habeen iyo maalinba waxa weye kuu tasbiixsanayna, kuu sujuudsan, ee waxa weeye maxay tahay xikmadda ku jirta? ilaahay markaasuu la hadlo wuxuu ku yidhi qaala innii aclamu maa laa taclamuun, waxaan ogahay wixiidan ogeyn oo idan garanaynin. ee ilaahay wuxuu og yahay maslaxadda ku jirta iyo xikmadda ku jirta fii khalqi haaulaa, leanno sababtu maxay tahay sayuujadu minhum alambiyaa waalmursaluun waasidiiquun waashuhadaa waalsaalixuun. waxaa laga helayaa oo bilo-aamnigii ka mida ayuu leeyahay ibnu kathiir raximahullah, ambiyadii nebiyadii oo dhan, mursaliintii lasoo diray iyo dadkii sidiiqiinta runta sheegayey iyo shuhadadii iyo saalixiintii
oo waxa weye dadkaasoo dhan baa ka mid a haddana markaasu wuxuu u caddeeyey ilaahay sharafta iyo wanaagga uu leeyahay aadam wa callama aadama alasmaa'a kullaha wax walbuu baray asmaadii o dhan buu baray oo waxa weeye tashriif iyo cilmi marka inay dadkan binu aadmigu ay cilmi yeelan doonaan ayaa halkaa ka cad ilaahay asmaadii o dhan buu baray marka qaala cabdullahi ibnu cabbaas waxa uu yidhi hiya hadihi alasmaa allatii yatacaarafu biha annaas dadku maanta asmaadan ay isticmaalayaan wey oo wax walba loo yaqaano waa kanoo waxaad leedahay waa dhul weeye waa cir weeye waa bad weeye waa sahli waa wax fiican waa wax xun waa xoolihii waa geedihii wax walba magacyadaa maanta binu aadmigu isticmaalayaan oo dhan ayuu baray wey xadiidkii anas ibnu malikna waxaa ku sugnaaday oo waxa weeye laga wariyey anas ibnu malik oo nebiga uu ka warinayey inuu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam yajtamicu lmu'minuuna yowma alqiyaama maalinta yowma alqiyaamaha ayaa dadkii mu'miniinta kulmayaan fayaquuluuna waxay leeyihiin mu'miniintii o dhan baa isku tegaya oo waxay leeyihiin markii dhibaatadii ka badato oo waxa weeye mashaakilkii bato oo waxa weeye qoraxdii halkaan taagan tahay oo la gubto oo mashaakil oo dhan yimaado ayay waxay u tegayaan waxay dhahayaan low istashfacnaa ilaa rabbina haddaynu ilaahay shafaaco weydiisano marka yaa nooga shafeeca qaada fayaatuuna aadam bay u imaanayaan fayaquuluuna waxay leeyihiin anta abulbashar adiga ayaa aabbihii dhammaa oo dadkao dhan ka yimaadeen oo basharka oo dhan aabbaha u ahaa adiga weey khalaqaka allahu biyadi ilaahay wuxuu kugu abuuray gacantiisa wa asjada laka malaa'ikatahu malaa'igtiisiina waa kuu sujuudiyey wa callamaka asmaa'a kula shayin asmaadii iyo magacyadii iyo wax walbana wuu ku baray haddaba xadiidkaa marka wuxuu inoo caddeeyey in la baray oo aayadduu fasiraya in wax walba la baray nabiyullaahi aadam calayhi salaam ayaa ilaahay halkaa inooga caddeeyey imaamu albukhaari ayaa weriyey iyo imaamu muslim waana xadiis saxiixa oo waxa weye bukhaari iyo muslim baa weriyey oo waxa weye waa warkiisa waa cad yahay inuu xadiis saxiixa yahay marka bukhaari wuxuu ku weriyey 4476 muslimna wuxuu ku weriyey 400 iyo waxa weeye 75 fi kitaab aliimaan ayuu ku weriyey bukhaarina fi kitaab tafsir ayuu ku weriyey waxa weye fatxulbaariga iyo sharxu maaragtay nawowi imaamu nawowi uu sharaxay muslim ayaad ka helaysaa insha allahu tabaaraka watacaala waxaa kaloo haddana markaasuu ilaahay waxa uu yihi uma caradahum cala almalaa'ika malaa'igtii baa loo bandhigay marka faqaala anbi'uunii biasmaa'i haulaai in kuntum saadiqiin ibn kahiir waxa uu leeyahay raximah llah qaala alxasan albasriy imaamu alxasan albasri waxa uu yihi lama araada allahu khalqa aadam markuu ilaahay uu doonay inuu abuuro aadam oo u sheegay malaa'igtii qaalat ilmalaa'ika malaa'igta ayaa waxay yidhahdeen laa yakhluqu rabbunaa khalqan ilaahay haddii uu abuuro khalqi nooc uu doonaba ha noqdee khalqi kasta oo abuuro ilaa kunaa aclama minhu annaga ayaa ka cilmi badan leanna inagu ilaahay baan la joognaa oo wax walba noo waxyoonaya oo waxa weye samadaan joognaa annagaa ka cilmi badan marka bilo aadmi marka dhulka la geynayo annagaa mar walba ka cilmi badan ayay yidhaahdeen waa la imtixaamay markaa fabtuluu bi haada taasaa lagu imtixaamay leanna uma ay celinin cilmigii ilaahay oo ma ayna odhan insha allah ma ay odhanin markaasaa waxaa lagu yidhi ilaahay markuu abuuray marka nabiyullaahi aadam oo cilmigii baray ayaa waxaa lagu yidhi haye ii sheega marka asmaadan way sheegi kari waayeen markaasay iskarteen oo toobad keeneen oo waxay yidhahen qaaluu subxaanaka laa cilma lana ila ma callamtana inaka anta alcaliimu alxakiim ay subxaanaka an yuxiida axadun bicilmik macnaha qof cilmigaaga koobi kara oo garan kara ma jiro qofkaad doontid baad wax bartaa walaa yuxiiduuna bishayin min cilmihi waatuu ilahay lahaa ila bima sha marka cilmiga ilaahay cid og ma jirto qof walba ilaahay intuu baray unbuu garanaya wa fawqa kuli dii cilmin caliim qof walba cilmigii la siiyey qof unbaa ka cilmi badan ilaa iyo ilaahay laga gaaro wax walba ilaahay baa ugu cilmi badan oo cid walba ilaahay baa ka cilmi badan laakiin dadkii makhluuqii qofba in baa la siiyey marka inta lagu siiyey qof unbaa kaasii cilmi badan sidaasoo kale ayaa ku dhacday nabiyullaahi muusa calayhi salaam inoo imaan doonta qisadiisii
markii la weydiiyey oo la yidhi dadka yaa ugu cilmi badan reer bani israa'iil ay weydiiyeen uu yidhi aniga. markaa ilaahay imtixaamay oo la yidhi addoommadeeda kamid oo kaa cilmi badan baa jira oo halkaa jooga, waa khadir calayhi salaam ayaa maaragtay saa imtixaankaas ku dhacay fi suurati kahfi waa iyada ka sheekaysa. haddaba marka waxa weye qofku ma oran karo anaa mar walba cilmi badan, ilaa waxa weeye inuu yidhaahdo ilaahay intuu baray un baan anigu aqaanaa, laakin ilaahay baa garanaya qofkii cilmi badan iyo waxa weye qofkii markaa wax garanaya. markaasu wuxuu ku yidhi ilaahay ya aadamu ambihum biasmaa'ihim, u sheeg. falama anbahum biasmaa'ihim qaala alam aqul lakum inii aclamu gayba asamaawaati waalardi wa aclamu ma tubduuna wama kuntum taktumuun. waxay leeyihin culummadu sida ibnu kasiir oo kale waxa uu leeyahay arrintan waxaa loo jeedaa malaa'igtii. almuraadu bihada alkalaam ibliis ayuu leeyahay, ibliis baa loo jeedaa. ay qowluhu tacaala wa aclamu ma tubduuna, waxa aad muujinaysaan, wamaa kuntum taktumuun, waxa ibliis uu qarinayey xaasidnimada iyo kibirka uu aadam uu ku qarsaday caloosha oo uu aadam sujuudi u diiday na waan ogaa. oo waxa weeye ibliis inuu noocaas samaynayana waan ogaa waxa uu qarinayo ayuu leeyahay ilaahay. qaalahu saciid ibnu jubayr wa mujaahid wasudiy wadaxaak wthawriyo wakhtaarahu ibnu jariir. wuxuu leeyahy marka aimadaas o dhan waxay doorteen imaamulmufasiriin iyo ibnu jariir iyo mufasiriintii daxaak iyo sudi iyo imaamu thawri iyo saciid ibnu jubayr iyo waxay leeyihiin wa aclamu ma tubduuna wama kuntum taktumuun, ay macnaha wama kuntum taktumuuna ibliis wixii uu qarinayey, wama kaana ibliisu yaktumu waan ogaa. oo waxa weeye waan ogaa waxaan uu xaasidnimadii iyo dhibaatada uu qarsanayey xiina asara alkibra, kibirka markuu qarsaday, walxasad xaasidnimada calaa aadam calayhi salaam, markuu doonayey inuu aadam xaasido waan ogaa wey. wa qaala abulcaaliya wاrabiic wاlxasan waqataata almuraadu qowluhum almalaa'ika, waxaa loo jeedaa malaa'igta oo sida daahirkaa weeye, oo waxa weeye waxaad qarinayseen iyo waxaad muujiseen labadaba waan ogaa. oo qowlkii ay yidhaahdeen khalqi kasta oo la abuuro annagaa ka cilmi badan waan ogaa weeye, markaad qarinayseen oo dhexdiina aad kaga sheekeynayseen waan ogaa weeye ayuu leeyahy ilaahay. marka labada qowlba culimmadu waa leeyihiin, wallahu aclam. marka labada qowlba waa jiraan, oo laakiin culummadu waxay u badan yihiin ninka wax qarinayay inuu ahaa ibliis ee malaa'igtu ayna waxba qarinin. wa qaala tacala ilahay wuxuu yidhi markaa waid qulnaa lilmalaa'ikati isjuduu liaadama fasajaduu ila ibliis abaa wastakbara wa kaana min alkaafiriin. ay macnaha markii ay noocaa dhacday oo nabiyullaahi aadam cilmigiisii uu waadix noqday oo ilaahay wax walba baray, ayaa la yidhi haddaba ikraaman liaadam, iyadoo aadam la ikraamaynayo oo la sharfayo oo la wanaajinayo, ayaa la yidhi marka u sujuuda. marka ilaahay markuu nafti ku afuufay oo gacantiisa uu ku abuuray ayaa la yidhi u sujuuda. waatuu ilaahay aayadda kale ku lahaa faidaa sawaytuhu wa nafaqtu fiihi min ruuxi faqacuu lahu saajidiin. haddii aan nafta ku afuufo dhammaystiro, faidaa sawaytuhu markaan dhammaystiro wa nafaqtu fiihi min ruuxi, naftaydana aan ku afuufo faqacuu lahu saajidiin, u sujuuda markaa. fa haadihi arbacu tashriifaatin, afar arrimood oo sharaf leh oo wanaagsan ayaa lagu sharfay marka nabiyullaahi aadam calayhi salaam. khalaqahu biyadihi, gacantiisa ayuu ilaahay ku abuuray alkariima, gacanta ilaahay oo wanaagsan ayaa ilaahay ku abuuray. wa nafaqahu fiihi min ruuxi, naftiisiina waa ku afuufay. wa amarahu almalaa'ika, malaa'igtiina ilaahay waa amray bisujuudi lahu, inay waxa weye u sujuudaan. wa tacliimuhu asmaa'a alashyaa, iyo haddana wuxuu baray wax walba magacoodii ayuu baray. haddaba halkaa waxaa ka sugnaatay afar arrimood oo aan makhluuqa kaloo dhan la wadaagin aadam, in ilaahay uu aadam ku gaar yeelay ayaa halkaa inooga caddaatay. waa midda koowaad waxa weeye ilaahay wuxuu ku abuuray gacantiisa, ma oranin sidii khalqiga kale kun fa yakun, laakiin gacanta ilaahay buu ku abuuray oo ilaahay baa jaangooyey oo abuuray wey. haddana markii naftii lagu afuufay oo ilaahay naftiisii ku afuufay, ayaa haddana markaa malaa'igtii waxaa la yidhi u sujuuda. asmaadii oo dhanna waa la baray oo cilmi baa ilaahay siiyey. intaasoo dhan marka waxay kutusaysaa tashriifka iyo wanaagga
nabiyullaahi aadam calayhi salaam ilaahay waxa weeye uu siiyey ayay kutusaysaa markaa. waxaa sugnaatay saas oo kale markaa xadiidkii nabiyullaahi muusa calayhi salaam markii uu la kulmay nabiyullaahi aadam ayuu wuxuu ku yidhi anta aadamu abulbashar aladi khalaqaka allahu biyadihi wa nafaka fiika min ruuxi wa asjada malaa'ikatahu wa callamaka asmaa'a kuli shay. adiga aadam baa tahay buu yidhi, aadamkii ilaahay gacantiisa ku abuuray, naftana uu ku afuufay, malaa'igta kuu sujuudiyey, wax walba ku baray, sow adiga ma tihid? haa weeye, oo nabiyullaahi aadam calayhi salaam ayaa waxa weeye sharaftaa iyo wanaaggaas oo dhan ilaahay uu siiyey wey. haddaba qodobkaa waxaynu halkaas ka fahmaynaa nabiyullaahi aadam calayhi salaam markii ilaahay uu abuurayey oo waxa weeye uu qaabkaa u abuuray, xikmad iyo waxaa ku jirtay wanaag iyo tashriif ilaahay waxa weeye uu sharfayey nabiyullaahi aadam. midda kale waxaynu ka faa'iideynaa malaa'igtu ma aynan u weydiinin ilaahay maaragtay inay amarkiisii diidan yihiin ama ka hor imaanayaan, laakiin waxay u weydiinayeen calaa wajhi alxikma, xikmadday rabeen inay ogaadaan iyo wanaagga meesha ku jira ayay rabeen inay ogaadaan. laakiin ibliis ayaa wax qarsanayey oo waxa weeye gaalnimo caloosha ku qarsaday oo doonayey inuu waxa weeye xaasido nabiyullaahi aadam calayhi salaam weye. waxaan usoo gudbaynaa marka qodobka afraada odhanaya xasadu ibliis liaadam calayhi salaam wa imtinaacuhu can isujuudi. ibliis oo waxa weeye inta xaasidnimadii ka badatay diiday inuu u sujuudo nabiyullaahi aadam ayaynu marka qeyb ka taabanaynaa insha allahu tabaaraka wa tacaala. ilaahay waxa uu yidhi walaqad khalaqnaakum uma sawarnaakum uma qulnaa lilmalaa'ikati isjuduu liaadama fasajaduu ila ibliisa lam yakun min asaajidiin. ilaahay markuu inoo caddeeyey inuu nabiyullaahi aadam abuuray oo sawirkiisi uu dhammaystiray oo naftii lagu afuufay oo la yidhi malaa'igtii u sujuuda oo ay u wada sujuudeen, ibliis isagu waa diiday lacanahullah, meesha ayuuna joogay, laakiin malaa'ig ka mid ma ahayn. qodob baynu ka dhigi doonaa hal kaana min almalaa'ika am la. wuu diiday marka inuu u sujuudo oo sujuuddii uu qaato. ilaahay wuxuu yidhi marka waa la weydiiyey, isla markiiba lama odhan naar ha lagu tuuro ama ha la ciqaabo. ilaahay wuxuu yidhi maa manacak anlaa tasjuda id amartuk, war maxaa kuu diiday inaad sujuudid oo amarkayga qaadatid, maxaa kuu diiday? qaala wuxuu yidhi anaa khayru minhu, anaa ka khayr badan kan, khalaqtanii min naarin wa khalaqtahu min tiinin. muxuu deliishaday marka in uu waxa weye isagana naar laga abuuray, nebi aadamna dhoobo laga abuuray ayay deliishiisii noqotay. anaa ka khayr badan buu yidhi marka ninkan. waxa uu leeyahay xasan albasri raximahullah, qaasa ibliis, qiyaas buu isticmaalay. qiyaastu waxa weeye inaad laba waxyaalood isku fiirisid, xaggee iska shabahaan, kee fiican, maxaa kana ku dheeriyahay kan, qiyaasta aad samaysid. qiyaastuu marka sameeyey wuxuu qiyaasay dabkii laga abuuray oo naartii ololeysay iyo dhoobada aadam laga abuuray. wuxuu yidhi dhooba iyo dab baa fiican bu yidhi, haddaba marka anaa ka fiican, leanno asalkayga dab baa layga abuuray, isagana dhoobaa laga abuuray, anaa ka fiican buu leeyahay marka. wuxuu sidoo kale leeyahay maxamed ibnu sirin, wuxuu leeyahay awalu man qaasa ibliis, qofkii ugu horreeyey oo qiyaas isticmaalay ibliis buu ahaa. qiyaastana mar hadday tahay fii muqaabil nas, amarka ilaahay iyo amarka rasuulka mar haddii lagu amro oo adiladii taallo, qiyaas ma samayn kartid. oo waxa weye mar haddii waxa weeye ay deliishii taallo, badula alqiyaas, ijtihaad iyo qiyaas iyo waxaasoo dhan ma imaanayaan meesha. amarka ilaahay baa yaalla, see buu qiyaas u isticmaali karaa? leanna amarka ilaahay baa yaallo, la yidhi waxaan samee. mar haddii la yidhi marka ficilkaan samee, waa inuu ficilka u degdego oo sameeye, ma aha inuu qiyaas isticmaalo, waa khaldan yahay. ilahay marka halkaa waxay nooga caddaatay, ibnu jariir adabari ayaa werinaya, wuxuu yidhi marka maxamed ibnu sirin qoraxda la caabuday iyo dayaxa la caabuday waxaasoo dhan qiyaastii ibliis wey, oo waxa weye ibliis ayaa waxyooday wey. ibnu kathir wuxuu leeyahy raximahullah, wa macnaa hada anahu nadara nafsahu bidariiqi lmiqaayasa, naftiisa ayuu eegay oo wuxuu is yidhi war adiga maxaa lagaa abuuray? naar baa lagaa abuuray. aadamna maxaa laga abuuray? waxaa laga abuuray dhoobo, oo dhoobo iyo naar kee fiican? naar baa fiican. haddaba diid markaa u sujuudin.
see wax adiga aad ka fiican tahay ugu sujuudaysa ma uu eegin marka malaa'igtii ilaahay oo nuurka laga abuuray oo amarkii qaadanaysa oo sujuudaysa ma uu eegin ma uu eegin amarkii ilaahay oo isagana abuuray aadamna abuuray haddaba marka waxaa la rabaa adiga amarka lagu siiyey waa inaad fiirisaa ma aha inaad fiirisid waxa amarka uu ku fulayo sidaa daraaddeed baa waxaa sugnaaday inuu cumar ibn khadaab laga wariyey inuu yidhi markuu xaramka ku dawaafayey baytka ilaahay ayuu xajarul aswadka dhunkaday baa lihi markaasuu wuxuu ku yidhi baa yidhi wallahi waxaan ogahay buu yidhi annaka xajarun laa taduru walaa tanfac inaad dhagax tahay aadan waxna tari karin waxna awoodi karin waxna dhibi karin haddaanan arkin buu yidhi nebiga ilaahay oo ku dhunkanayana weligay kuma dhunkadeen haddaba marka waxa lagu amray waa inaad fiirisaa ma aha inaad tidhaahda dhagaxa anaa ka fiicane maxaan u dhunkanaya ma aha mar haddii ilaahay ku amray oo waxa weeye rasuulka ilaahay ku amray oo lagu yidhi ficilkaan samee ilaahay baa kaaga raali noqonaye sameeyo hoggaansan waa inaad ficilka u hoggaansantaa inaad diidid maaha akhilmuslima waqtilmuslima waa khatar wey waa wixii ibliis ku halaagsamay wey mar hadduu qofku naska diido halaag iyo waxa weye mashaakil ayuu markaa la kulmayaa oo inkaar baa ku dhacaysa wey leannahu qiyaaska noocaasa waa faasid wey wuxuu yidhi marka ibnu katiir raximahullah haddii xataa qiyaastiisa loo raaco dhoobada iyo dabka inuu dhoobadu ay fiican tahay iyo inuu dabku fiican yahay laftigeeda waxa weye looma ogola taa laftigeeda waxa weye dhoobada faa'iido badan bay leedahay waxba laga beertaa wanaag oo dhan bay leedahay oo waxa weeye xoolaha ku nool dadkaa ku nool guryaha laga dhistaa wax walba wanaagay leedahay dab muxuu taraa marka dabku waxbuu gubaa keliya marka sidaa daraaddeed hadda dhankaa haddii xataa laga maro kama fiicnid wey oo waxa weeye kama aad fiicnid oo waxa weeye taasi ma keenayso inaad ka fiican tahay wey uma aadam sharafahu llahu ilaahay wuxuu ku sharfay aadam inuu abuuray gacantiisa ku abuuray naftiisiina ku abuuray malaa'igtiina u sujuudiyey laakiin ibliis kun baa la yidhi fayakun waa ahaada marka sidaa daraaddeed waxyaalo badan oo waxa weeye sharafa oo aadam uu leeyahay baa jira oo aan dadka makhluuqa kale la wadaagin marka haddii mar lagu amray inaad u sujuudid ibliisow inaad u sujuudid bay ahayde ma ahin inaad isa soo taagtid sidaa malaa'igtuba u sujuuday ayay ahayd inuu sujuudda u qaato oo amarka ilaahay u hoggaansamo ilaahay waxau yidhi marka waid qaala rabuka lilmalaa'ikati inii khaaliqun bashara min salsaalin min xama'in masnuun faidaa sawaytuhu wanafaktu fiihi min ruuxi faqacuu lahu saajidiin markii malaa'igtii saa lagu yidhi oo loo caddeeyo o la yidhi basharkaan abuurayo u sujuuda malaa'igtii o dhan waa sujuuday ibliis laakiin isagu waa diiday ilaahay marka su-aal buu weydiiyo waxaa lagu yidhi maa manacaka anlaa takuna maca asaajidiin qaala lam akun kibir buu marka jawaabtiisa xataa kibir baa ku jira lam akun buu yidhi isla weynen liaxadin liasjuda libasharin khalaqtahu min salsaalin min xamayn masnuun see ugu sujuudaa buu leeyahy aniga wax aad ka abuurtay dhoobo yaabisa oo qalalan oo waxa weeye ebera haye ilaahay baa markaa wuxuu ku yidhi fakhruj minha fa inaka rajiim adoo naxariista lagaa dheereeyey ka bax jannada marka nacladaydiina waxa weeye wa ina calayka alacnata ila yowm iddiin nacladaha kugu dhacdo ilaa yowma alqiyaame ka bax baa layihi jannada wuxuu lehy ibnu katiir raximahullah istaxaqa hada min allahi tacaala nacladii ilaahay inay ku dhacdo ayuu xaq u yeeshay liannahu sababtu maxay tahay waxa uu diiday inuu waxa weeye nabiyullaahi aadam u sujuudo oo waxa weye amarkii ilaahay buu diiday marka inuu aadam fiiriyaba ma ahayn ee waxay ahayd asalku inuu fiiriyo war ilaahay baa ku amray waxaan amarka ilaahay u hoggaansan ayaa la rabaye aadam maxaad ka eegeysa aadam waa makhluuq kula mida waxba ha eegine amarka ilaahay inaad eegtid bay ahayd yaa ibliisow oo waxa weeye marka haddaad diiday marka hadda nacladii ilaahay baa kugu dhacday marka wuxuu yidhi markay ibnu katiir raximahullah haddana wuxuu galay markaa ictidaar inuu sameeyo oo waxa weeye uu ilaahay weydiisto laakiin bal ictidaarkiisa u fiirso iyo waxa weeye habka uu haddana maaragtay uu doonayo inuu maaragtay uu ilaahay uu ula hadlayo intuu amarkii ilaahay diiday ayuu haddana wuxuu doonayaa inuu ilaahay weydiisto
ilaa iyo aakhira in la nooleeyo ilaa yowma alqiyaama inuu noolaado, maxaad u noolaanaysaa marka? inuu toobad keeno ma rabo, inuu ilaahay usoo noqdo ma rabo, cadaab inuu gala buu rabaa, laakiin ciddii cadaabta la geli lahayd buu doonayaa inuu jaanis ka helo. waxa uu yidhi marka waid qulnaa ilahay wuxuu yidhi waid qulnaa lilmalaa'ikati isjuduu liaadama fasajaduu ilaa ibliis mooye intii kale waa u sujuuday. markaasuu waxa uu ku yidhi ilaahay uula hadlo wuxuu yidhi qaala a asjudu liman khalaqta diina, ma waxaan u sujuudayaa waxaad dhooba ka abuurtay? qaala ara'aytaka hada aladii karamta calay. xataa asluubka uu ilaahay kula hadlayo oo ilaahay waxa weeye uu ugu jawaabayo ayaa waxa weeye wax khayr dara ku dhacday wey, oo waxa weeye halaag iyo mashaakil waxa weeye ay usugnaatay. ilaahaygii abuurtay buu saa ula hadlaya oo waxa weeye erey xun uu kula hadlayo leeyahay, ma waxaan ugu sujuudaya wax dhooba ka abuurtay? dood cidla. ilaahay markaasu wuxuu yidhi waxa uu yidhi shaydaankii wuxuu yidhi qaala ara'aytaka hada aladii karamta calaya lain akhartani ilaa yowmi alqiyaama la axtanikana duriyatahu ilaa qaliila. ka waran buu yidhi haddaad ilaa yowma alqiyaama inoolaysid, waxaan ballan ku qaadayaa duriyadiisa oo dhan inaan kaxaysto oo aan dacayga ku rido oo aan hoggaansamo, intaan hoggaamiyo aan gebigoodaba duufsado oo aan naar ku guro, waad arki doontaa. ilaahay baa wuxuu yidhi fadhab, tag buu yidhi, idhab, ka bax baalay jannada tag, faman tabicaka minhum fa ina jahannama jazaaukum jazaan mawfura. adiga iyo inta ku raacdayba jahanabo ayaa idinku filan, oo ballantu waxay tahay inaan jahanabo idinku guru yidhi ilaahay uu ballan qaaday. orod baa la yidhi ku dadaal, waxaad samayn kartidna samee, wastafsiz man istadacta minhum bisawtika waajlib calayhim bikhaylika warijlika washaarikum fi lamwaali walawlaad. orod baa la yidhi weerar, oo waxa weye inta weerar ku qaadid duriyadiisa duufso, cid alle ciddaad duufsan kartid, fardahaaga ku weerar, oo waxa weeye lugee, oo waxa weeye saad doontid ugu tag, xoolaha la wadaag, awlaadda la wadaag, dhex gal, wacidhum u ballan qaad, wax alle waxaad doonta u ballan qaad. wamaa yaciduhum ashaydaanu ilaa guruura. waxa uu laakiin shaydaan uu u ballan qaadaya dadka waa guruur wey, waa waxaan jirin weye, waa been iyo ziinayn iyo waxa weye wax cidlaa ayuu kuu ballan qaadayaa, ee wax uu gacan ku hayo ma jirto wey. ilahay wuxuu yidhi marka halkaa marka intaa markuu sheegay wuxuu ilahay haddana ina cibaadii laysa laka calayhim suldaanun wa kafaa birabbika wakiila. ilaahay wuxuu yidhi addoommadayda aniga xaq uma lihid buu yidhi, waxna kuma samayn kartid, kumana raacayaan. ilaahay baa waxa weeye ku filan oo waxa weye waardiyeynaya. allahuma ijcalnaa minhum, addoommada ilaahay ilaahu naga mid dhig oo shaydaan ka badbaada. aayad kale ilahay wuxuu ku yidhi waid qulnaa lilmalaa'ikati isjuduu liaadama fasajaduu ilaa ibliisa kaana min aljinni. jinni ayuu ka mid ahaa marka, lacanahu llah, jinni ayuu ka mid ahaa, fafasaqa can amri rabbi. arrintii ilaahayna waa ka kibray, faasiq buu noqday oo daacadii ilaahay inuu qaato waa diiday. ibnu kathiir marka wuxuu yihi raximah llah kharaja can daacati illah camdan wa cinaadan waistikbaaran can imtithaali amrihi. wuxuu ka baxay buu yihi daacadii ilaahay, amarka ilaahay inuu qaato. maxaa u geeyey? kibir iyo isla weynan iyo canaad ayaa intaasoo dhan u geeyey, oo waxa weeye wuu diiday wey. wamaa daaka buu yidhi ila liannahu khaanahu dabcuhu. waxaa khayaamay wixii laga abuuray iyo waxa weye dabcigiisi iyo wixii laga abuuray ayaa khayaamto. wuxuu is yidhi naar baa lagaa abuuray, see baad waxa weye adigu ninkaan ugu sujuudaysa. sidaa daraaddeed baa nebiga waxaa ka sugnaatay inuu yidhi khuliqat almalaa'ikatu min nuur. malaa'igta waxaa laga abuuray nuur. wa khuliqa aljaanu min maariji min naar. naar ololaysaa laga abuuray jinkii, oo ibliisna jinkuu ka mid yahay. wa khuliqa aadamu mima wusifa lakum, ay macnaha dhoobadii min xama'in masnuun ayaa laga abuuray. imaamu muslim baa weriyey fi kitaabi zuhdi 7,000 iyo waxa weye 420 maaragtay sharxu imaam nawowi ayaan maaragtay halkaasaad ka helaysaa insha allah. wa qaala tacaala haddana ilahay wuxuu yidhi fi suurati sad waid qaala rabuka lilmalaa'ikati inii khaaliqun bashara min tiin faida sawaytuhu wanafaktu fiihi min ruuxii faqacuu lahu saajidiin. intaa awal baan soo sharaxnay, laakiin macal shaahidku waxa weeye ibliis markuu diidey oo ilaahay weydiiyey
oo la yidhi maxaa kuu diiday inaad sujuudid qaala wuxuu yidhi ilaahay marka maxaa kuu diiday maa manacaka an tasjuda limaa khalaqtu biyadaya waxaan gacantayda ku abuuray maxaa kuu diiday inaad u sujuudid astakbarta am kunta min alcaaliin intaa marka ilaahay yidhi ayuu hadlo wuxuu yidhi qaala anaa khayru minhu khalaqtanii min naarin wa khalaqtahu min tiin anaa ka khayr badan buu yidhi naar baad aniga iga abuurtay isagana waxaad ka abuurtay dhoobo wey ilaahay markaasu wuxuu yidhi fakhruj minha fa inaka rajiim wa ina calayka alacnata ila yawmi iddiin aayadihii aanu soo sharaxnay weeye intaasoo dhan qaala imaam ibnu kathiir raximahullah wuxuu leeyahay markuu halkaa aayadaha sharaxayo waxaa halkaa ka caddaatay inuu waxa weeye ninkaani naftiisa ay khiyaantay oo uu is yidhi adiga waxaa lagaa abuuray dhoobo waxaa lagaa abuuray nuur waxaa lagaa abuuraan leeyahay maaragtay naar iyo olol baxaya see marka ugu sujuudaysaa wax dhooba laga abuuray nebigana calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiixu wuxuu ku yidhi shaydaan ayaa wuxuu yidhi ina ashaydaana qaala wacizatika yaa rabbi laa abraxu ugwi cibaadaka maa daamat arwaaxuhum fii ajsaadihim cizadaada iyo sharaftaada iyo wanaaggaagan ku dhaaranayaa buu yidhi ilaahayo waxaan ballan ku qaadaya inaanan ka zuulin inaan baadiyaynayo oon dhuminayo oon halaagayo oon dariiqa xaqaa ka leexinayo addoommadaada maadaamad inta ay naftii ku jirto oo ay dhulka joogaan ilaahay baa markaa wuxuu yidhi oo ballan isaguna qaaday ilahay wuxuu yidhi faqaala rabbu wacizatii wa jalaalii waxaan ku dhaaranayaa sharaftayda iyo waxa weeye weynankayga iyo cadamadayde laa azaalu kama zuulayo akfiru lahum inaan u dembi dhaafayo mastakfiruuni intay dembi dhaaf i weydiisanayaan imaamu axmed baa weriyey iyo abu yacla waxasanahu sheekh albani fi saxiix aljaamic 1650 xadiidkii abi saciid alkhudri raximahullah radia allahu canhu halkaa marka waxay nooga caddaatay shaydaan ballan buu qaaday wuxuuna ku ballan qaaday inuu dhinac walba uga imaanayo dadkii oo uu halaagayo oo uu baabiinayo ayuu ballan qaaday wey wa qaala nabiyu sala allahu alayh wasalam xadiis saxiixa nebigu wuxuu ku yidhi ina ashaydaana qacada libni aadam biadruqihi dariiq walba waa u fadhiistay marka halkan waxay axaadiistan inoo fasiraysaa seebuu shaydaan inoogu imaanaya dariiqeebuu soo maraya ayuu waxa weye halkan inoo caddaynaya wuxuu yidhi dariiq walba waa u fadhiistay faqacada lahu bidariiqi lislaam dariiqii islaamnimada ayuu u fadhiistay oo wuxuu ku yidhi ma islaamaysaa oo diintaadii aabbayaasha iyo awowayaasha dariiqii ay hayeen miyaad ka tegaysaa haddii uu qofkii marka caasiyo fa casaahu fa aslam qofkii marka caasiyey oo waxa weye maaragtay islaamay ka harimayo intaa uga harimayo oo isdhehi mayo mar hadduu kan islaamay faraha ka qaad ma yeelayo u wuxuu haddana markaas samaynayaa uma qacada lahu bidariiqi alhijra dariiqii hijradu u fadhiisanaya oo waxa weeye imaanaya oo wuxuu leeyahay mahaajiraysa oo waxa weye hijradii mashaakil badan bay leedahay oo waxa weye dariiq dheer baa la maraya mashaakil oo dhan baa kugu dhacaya ma waxaad ka tegaysaa dhulkaagii iyo waxa weye dhulkaad tiqiinay ahalkaagii dadkaagii miyaad ka tegaysaa qofkii caasiya marka oo caasiyey fa casaahu fa haajara wuu soo haajiray uma qacada lahu wuxuu u fadhiisanayaa bidariiqi ljihaad jihaadkiibuu ka hor istaagaya war wuxuu leeyahay ma jihaadaysaa oo waxa weye dagaal baad gelaysaa waa lagu dilaya waad dhimanaysaa markaad dhimatid naagtaadi waa la guursanaya xoolahaagii waa la dhaxlanaya ilmihii waa agoomobayaan oo agoon bay noqonayaan ilmahaagii war xaggee baad aadaysa nebigu wuxuu yidhi marka qofkii intaa ku caasiya oo waxa weye shaydaankii caasiya ilaahay wuxuu u ballan qaaday janno inuu geliyo walow kaana hadduu doono xataa dagaal bayuu ku dhimane jihaadkii ku dhimane firaashkiisaa ku dhintee hadduu qofku saa sameeyo ilaahay waxa weeye janno ayuu gelinaya xadiidkaana waxaa weriyey imaamu axmed iyo imaamu nisaa'i waana xadiis saxiixa oo sheekh albani ku saxiixiyey fi saxiix aljaamic waxa weeye 1652 raximahullah halkaa marka waxay nooga caddaatay shaydaanku qowlkiisii ahaa meel walba waan uga imaanaya uma la aatiyanahu min bayni aydiyihim wa min khalfihim wa can aymaanihim wa can shamaa'ilihim walaa tajidu aksarahum shaakiriin ayuu xadiidkaani fasiraya macnaha dariiq walba inuu kaa soo gelayo oo kaa waswaasinayo laakiin hubkiisa iyo wuxuu adeegsanayo o dhan waa waswaas wey hub kala maayo haddaba halkaa waxaynu ka ogaanay marka xaasidnimada iyo dhibaatada
iyo mashaakilka uu ibliis inagu hayo ayaynu halkaa ka ogaanay marka waxaynu usoo gudbaynaa qodobka shanaad oo odhanaya man hum almalaa'ika aladiina umiruu bisujuudi liaadam malaa'igta la amray inay nebi aadam u sujuudaan maxay ahaayeen wuxuu leeyahy ibnu kathiir raximahullah waxay mufasiriintu isku khilaafeen malaa'igtaa la amray nebiyullaahi aadam inay u sujuudaan ma malaa'igtoo dhan ba mise waa qeyb malaa'igta ka mid a ma malaa'igta dhulka joogtaa mise waxa weeye waa malaa'ig samada joogtay waa kuwee wuxuu yidhi jamhuurulculamaa waxay qabaan inay yihiin jamiicu lmalaa'ika kamaa dalla maaragtay calayhim cumuum alaayaat sida aayaduhu ku tuseen leannahu ilahay wuxuu leeyahy mar walba fasajada almalaa'ikatu kulluhum ajmacuun malaa'igtii o dhan waa sujuudeen iyagii oo dhan marka haddaba waa malaa'igta oo dhan wey marka sida uu ka warinayo ibnu jariir iyo daxaak iyo saas ayay waxa weeye keenayaan laakin waxa weeye qeyb ka mid a ayaa waxay yidhahdeen waxa weye culummada qeyb baa waxay yidhahdeen waa malaa'igta dhulka joogta oo bini aadmiga ku dhex jirta kuwa ayaa la amray inay u sujuudaan laakiin qowlka saxiixa oo daahirka oo aayaduhu kutusayso ibnu kathiirna uu rajaxay waxa weeye waa jamiicu lmalaa'ika leannahu xadiis baa ku sugnaaday wa asjada lahu malaa'ikatahu malaa'igtii oo dhan waxa weye malaa'igtiina ilahay waa u sujuudiyey meesha doodaani ka dhacayso iyo waxa weeye arrintaanina waa samada ee dhulka ma ahayn waxa weye marka samadaa la joogay malaa'igtuna samaday joogeen meeshaas ayaa marka malaa'igtii oo dhan ilaahay wuxuu amray inay u sujuudaan fasajada almalaa'ikatu kulluhum ajmacuun haddaba qowlkaasaan qaadanaynaa daahirkaa ilaa aynu helo daliil saxiixa oo odhanaysa qeyb malaa'igta ka mid ay ahayd ama malaa'igta dhulkay ahayd oo waxa weeye malaa'igtii kala saaraysa qowlkaas saxiixa ayaynu qaadanaynaa oo ku soconaynaa ibnu kathiirna uu rajaxay raximahullah uu yidhi malaa'igtoo dhan bay ahaayeen ee lama odhan karo qeyb malaa'igta ka mid a looma tiirin karo leannahu daliil looma hayo wey wuxuu yidhi haddana ibnu kathiir raximahullah marka qowlkaasuu rajaxay raxmatullaahi caleyh qowlkaasaynu marka qaadanayna qodobka lixaad aan usoo gudbayna waxa weeye kaana ibliis calayhi lacaa'in ullah fi sama samada ayuu joogay ibliis maxaa u daliilay inuu samada joogay leannahu ilaahay baa waxa uu yidhi qaala fahbid minha famaa yakunu laka an tatakabara fiiha fakhruj inaka min assaakiriin ilahay wuxuu yidhi marka fahbid hubuudka waxaa la yidhahdaa qofku markuu meel sare kasoo dego oo meel hoose usoo hoobanayo ayaa la yidhahdaa hubuud marka waxa weye sidaa daraaddeed halkaa waxay kutusaysaa in la yidhi ka hoobo oo ka deg oo ka bax jannada iyo samada oo dhulka tag fakhruj minha madmuuma madxuura adiga oo dulaysan ka bax baa la yidhi jannada wuxuu yidhi marka ibnu kathiir raximahullah wa hada daliilun fiihi daliilun calaa annahu kaana fi samaa samada inuu joogay ayay arrintaas daliil u tahay fa umira waxaa la amray bilhubuudi inuu soo dego minha waalkhuruuju minha inuu jannadii iyo samadiiba ka soo baxo ayaa la amray wey lisababi kibrihi wa xaasidnimadiisii iyo kibirkii iyo mukhaalafadii amarka ilaahay uu khilaafay ayaa la amray oo la yidhi tag marka oo waxa weeye dhulka tag wey waxay kaloo culummadu isku khilaafeen hal kaana min almalaa'ika am la malaa'igta sidiisa miyuu ka mid ahaa waa tan meel walba laleeyahay fasajada almalaa'ikatu kulluhum ajmacuun ila ibliis mooye malaa'igtii o dhan waa sujuuday ayaa ilaahay aayad walba ku leeyahay marka ma malaa'igtuu ka mid ahaa ninkaani waxa uu yihi marka ibnu kathiir raximahullah wasawaabu annahu lam yakun min almalaa'ika weligii malaa'ig ka mid ma noqon laakiin culummadu isku khilaafsan yihiin oo waxay leeyihiin muxuu ahaa qaala alxasan albasriyu waxa uu yihi raximahullah lam yakun ibliisu min almalaa'ika darfata cayn qad weligii daqiiqad malaa'ig ma noqon ilbriqsi malaa'ig ma noqon oo weligii ibliis buu ahaa lacnatullahi caleyh ibliis buu ahaaye weligii malaa'ig ma noqon wey maxaa u daliilay inuusan malaa'igta ka mid ahayn ilaahay wuxuu yidhi qawluhu tacaala ilaahay baa yidhi maaragtay kaana min aljinni fafasaqa can amri rabbi hadda jin buu ahaa marka malaa'ig ka mid ma ahayn marka wuxuu kutusayaa marka aayaddaasi waxay kutustay kaana min aljinni inuu yidhi ilaahay jin buu ka mid ahaa oo jinni buu ahaaye malaa'ig ma ahayn
waxaa kaloo u daliila ana almalaa'ikata khuliqat min nuur, nuur baa laga abuuray malaa'igta, wa ana ibliis iyo jinnigiiba waxaa laga abuuray naar baa laga abuuray. leanna waa isaga dhahaya markii la yidhi maxaa kuu diiday inaad u sujuudid, qaala ana khayru minhu khalaqtanii min naarin wa khalaqtahu min tin. malaa'igtana in marka naar nuur laga abuuray waa caddahay, oo waxa weeye axaadiis baa ku sugnaatay. haddaba marka jin buu ahaaye malaa'ig ka mid ma ahayn, naar baana laga abuuray. waa laba khalqi oo aan shaqo isku lahayn wey. waxaa kaloo kuu caddaynaysa oo daliil u ah inuuna malaa'ig ka mid ahayn, wa ana lahu duriyatun, wuxuu leeyahay carruur buu leeyahay, wuu tarmaa, oo waxa weye sida bini aadmigu u tarmaan bay u tarmaan jinku. leanno ilaahay baa yidhi afatattakhiduunahu wa duriyatahu awliyaa min duuni wahum lakum caduw, iyagoo cadow idii ah miyaa duriyadiisii iyo isaga ayaad waxaa ka dhiganaysaan dadaad jeceshiin iyo awliyo ka dhiganaysaan. haddaba malaa'igtu duriyad ma leh, mana taranto, mana dhasho, mana guursato, shahwadna kuma abuurna, ilaahayna uguma talagelin, ilaahay bay caabudaan, mana caasiyaan, wax kalena iyagu waxa weye shaqo kuma leh. waxaa kale u daliila inuuna malaa'ig ka mid ahayn annahu istakbara wa calaa wa fasaqa can amri rabbihi wa casaa, wa ana almalaa'ikata cibaadu mukramuun laa yastakbiruuna can cibaadati rabbihim walaa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun. waxay halkaa kutusaysaa marka ibliis maadaama isagu uu ilaahay caasiyey, amarkii ilaahayna uu diiday, oo uu waxa weye ilaahay caasiyey, inuuna malaa'ig ka mid ahayn. sababtu waxa weye malaa'igtu ilaahay ma caasido, amarka ilaahayna ma diido, amarka ilaahay bay u hoggaansamaan. wixii ilaahay amro samca wa daacan weeye, loogumaba talagelin inay ilaahay caasiyaan. ilaahay wuxuu u abuuray inay yihiin khalqi aan waxa weye ilaahayba caasiyeyn. haddaba halkaa marka waxay kutusaysaa inuu waxa weeye uusan malaa'ig ka mid ahayn, shaqana ku lahayn ayay halkaa ku caddaynaysaa, oo waxa weeye uunan weligii malaa'ig ka mid noqon ayaa halkaa marka inooga caddaaday oo waxa weeye waadixa. insha allahu tabaaraka watacaala qeybtan halkaasaan ku joojinaynaa. qeybta dambe ayaynu ka qaadi doonaa haddii rabbi idmo khalqa xaawo iyadoo waxa weye abuurkeedii iyo habkii loo abuuray iyo waxa weye goormaa la abuuray dib ayaynu mar kale ayaynu tafsiirinaynaa insha allahu tabaaraka watacaala haddii rabbi idmo. wasubxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk walxamdu lillahi rabbi alcalamin.